kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada waraysi aanu la yeeranayno nin dhalinyaro ah oo waayahan dambe social media aad u haystay Soomaalidu ay ka hadlaysay oo magaciisa la yiraahdo Sufyaan Sheikh Ahmed. Sufyaan iminka waxa uu joogaa stuudiyaheena magaalada Nairobi, aniguna waxaan joogaa boqortooyada Ingiriiska. waxaan wax ka weydiin doonaa barnaamijkan duruucdiisa iyo inta ugu badan aanu ku bixin doonaa insha Allah ta'ala sidaan ka balan inaanu ka hadalno calanka uu midda uu ka soo hadlayay, laakiin haddana aanan ku celinin wuxuu Sufyaan in badan yiri oo ku celiso wixii aysan noqonin maxaa yeelay Soomaalida waxay tiraahdaa war la qabo xiisa ma lahan. sidaa awgeed waxaan jeclahay insha Allah ta'ala inaan Sufyaan soo dhaweyno kana hadalno arrintaas iyo arrimo fara badan oo kale oo la isla dhexyaacay si aanu wax uga ogaano, balse waxaan marka hore rabaa Sufyaan soo dhaweeyo. Sufyaan aad baan kugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol inuu Ilaahay suurto geliyay ugu dambeyntii inaanu isla fariisano si fiican aad iga aqbashay invitation-kan. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدن وريه فتاح آدي البعض سنتهي ودوهي. Thank you very much. وحقاك أنت أنا الوحكة لو جود الجنين وحن جعلها يدي لها إلى هذا أذيك أنا واقوم مرتقال إن هدد نجي يليسد إن أنا نكبر ورا بالمركة ورا هاست علنك سي أن أقدر إنه أو ياشين كي أدق على ما يحر بدأ يحر مركة وحنا محيطو صارينا هاست علنك dabadeedna calanka laftigiisa iyo dadkii u halgamay ayaan salaan u saaraynaa haddaan nahay Soomaali, adiguna waa kugu marti qaadayna haddaad diyaar tahay. soo dhawow. waxay ila tahay intaasu inay noogaga eg tahay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa u dagaalamay xornimada Soomaaliya iyo calanka buluubanaya oo kugu marti qaaday inaad u istaagtid ama salaan u saartid ma doonaysid, waana kugu ixtiraamayaa kaagama xumi marti qaado Soomaaliyeed waajib saaran way. Sufyaan inta aanan u guda gelinin qaybta ugu badan oo barnaamijka waxaad iga codsatay dadweynaha aan u sheegayaa waxaad igu tiri mar raba inaan ka hadlo xaasaskayga iyo arrimaha waxaan kugu iri anigu nin weyn oo dhaqanka Soomaaliyeed wax ka yaqaanaan isku haystaa waxa aan ogaga hadlo xaasaskaaga haba yaraatee ama baahi aan u qabno ma jirto. gabdho Soomaaliyeed oo diin ay ka muuqato oo sharaf ka muuqataan arkay kulligood waa salaamaynaa. dhaqanka Soomaalida ayaana ii diidayay iyo maskaxda iyo loojiga in aan nin xaaski ka hadlaan waxaas iyo carruur baan leeyahay mana rabo in maaragtay laundrygooda lagu mayro social mediaha kuwaaguna waa kuwaas oo kale marka taasu meel haynoo taallo. Sufyaan waxaa dhacday in aad waraysiyo fara badan oo kala duwan aad bixisay ama kaga hadashay noloshaada, laakiin wax yar baad soo koobtay oo noloshaada ku saabsan inaad ku gobolada dhexe Soomaaliya dabadeedna qaxi aad ka soo tagtay Mareykanka iyo wadamo kale oo ka mid yahay wadanka la yiraahdo Spain inaad wax ku soo baratay iminkana aad u soo noqoto Afrika aad joogto gaar ahaan Kenya. laakiin taariikhdaadu intaas way ka fog tahay waxyaalo fara badanna waa la isla dhex marayaa. waxaana dhacday in aad adiga laftigaagu live soo gashay shalayto dabadeedna eedeymo lagu soo jeeday dul martay. eedeymahaas waxaa ka mid ahaa lagu eedeynaya anigu caddayn ma hayo ma xaqiijin karo kuma eedeyn laakiin wuu kuu soo gudbinayaa inaad adigu Sufyaan Sheikh Ahmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan xasan, inaad gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xange, inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheikh Cali, inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur, inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyeyaal afar ka mid ah isku meel aad ku dishay Radio Muqdisho. eedaynta maxaa kaga jawaabaysaa؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan malaynayaa inaad dhegaysatay live-kii aan xala soo galay. waxaan kaloo malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah. arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddaynteeda soo daba dhigo. arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira ma leh.
marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan ugu isaaniyaa wahaystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcaddayda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan kuu sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegaya inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meel aad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawo wariye fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaa wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sidaan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaatiin aan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxaan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihin caddayn baan u hayna inaan ku weydiiye keliya unbaad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka biniaadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac ka gudub gasho waad fahmi karaa waxay tahay micnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa imaanaynaa calanka waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yidhi anugu muwaadin soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagaya una sacabinaya garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamay tayda igu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay سؤالي ويدي سؤال شباب كذا جواب لكن نمكن وحن بروباغندا دي أدينا كسي ودا I'm not stupid وفهم كلام listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid no سؤال توصي ويدي هم أسمع you know قال لنا نمكن you playing to the hands of the enemy macna waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject ku ciyaaraysaa aniga inaad wali ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaraya aniga sharafteeda su'aal toos waa leeyahay ask me question hold on lecturing kuguma imaan moogta inaad su'aal weydiisan kugu imid listen if anu lecture dadka ba uguma imaado adaa dadka lecture gelinayo ka hadlayay markaan waraysi kaa ogolanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad caddaysa hadda markaad bilaabaysid kanwi ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysid oo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaa ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno leris waa i weydiiyo su'aal waa kaaga jawaab su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaaru ma yihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adoo inaad ka jawaabto alxaq u leedahay haddaanan ka jawaabin waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadasha waa ku dhegaystay aaway aqoontii ilaashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is have a share صاحب ترتيب حوش الرصع. Problem فتح problem كله جاي. waxaa isku dayaysaa inaad angalkaaga siyaasadda aad aniga sheekadan ugu sii dheeraysid oo ah sidaas baa leeyahay ask me questions macnaha meesha muu imaan haddaad aamusid waa ku wadaha laakiin aysid weydii su'aal su'aali weydii fine marka adigu hadlaysay waxaad tiri waxaan soo qaadanaya waxaad adigu tiri waa la yiri iska daa
waxaad tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arrinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaasi u yimaado ayay imaanaysaa arrintaas inaan ka jawaabo hadda maya Soomaaliya miyaa ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su-aashaas waxaad broadcastkaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday iyo inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arrintaas oo dhan maaha in fact waxaad samaynaysaa hadda statement oo qalad oo aanan dhihin aniga ma dhihin dowladda Soomaaliya ii ballan qaaday okay maya arrintaas waxay ku jirtaa social mediaha qofka u baahan halkaas uu ka dhageysanayaa su'aal haddaad qabtid weydii fine inaad kama jawaab inaad ka jawaabtid ma doonaysid waxaad kaloo ku tiri broadcastkaaga adigu aad live-ka u soo gashay waxaad tiri waxaa ii heshiiyey BBC-da wariyaal ka shaqeeya iyo dowladda Talyaaniga hay'ad u shaqeysa maxaad ku cadaynaysaa wariyaasha BBC-da gaar ahaan kuwa Soomaalidu inay adiga ku caddeynaysaa فتاح waxaan u maleynayaa at least inaad xoogaa leedahay some sort of civilized manners su'aalaha qaarkood waxaa la isku weydiiyaa meelaha qaarkood hadda waqtigan xaadirka wixii proof iyo caddayna oo loo baahan yahay ama wax lagu caddaynayo waqtigeedii lama joogo goobteedii lama joogo waxaad igu marti qaaday programkaaga inaad su'aalo i weydiiso not inquisitive maxkamadna ma saarni so please can we move on hore ma uga socon karnaa su'aal i weydii fine hore u soconayna adaan kuu raacayaa waxaad ku tiri broadcastkaaga 230,000 ayay dowladda Mareykanku jaamacad iga bixinaysay maxaad baranaysay oo 250,000 oo u dhiganto 169,000 oo giniga sterlinka today sarif aad ku baranaysay maadada noo sheeg adoo maad mar kale waxaan rabaa waxaad isticmaalaysaa hostile manners you attacking me macnaheedu maaha inaan rabin ka jawaab laakiin waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo inaan fahamsanahay waxaad ka mid tahay ama hadda ii muuqata inaad qayb ka tahay dadka ku faraxsan in aniga magacayga la damage gareeyo su'aalaha aad weydiinayso waa su'aalo investigation waa su'aalo maxkamadeed waa su'aalo baaritaan su'aalo social media ama media looga jawaabo maaha I'm not under investigation qof baaraay ma laha so kama jawaabayo su'aalahaas waxaan idhi waa idhi qofkii u baahan baaritaan iyo research markeeday tegaysaa laakiin waxaad ii wacday oo aad ii marti qaaday inaad calanka wax iga weydiiso asagaad aaminsan tahay waxaan ku ogolaaday fursaddan isku day inaad difaacdo ha ku wareegin meel kale waa gartay may anu calanka maba difaacay anu waxaan soo bandhigayaa the other side of the argument anu waxaan ahay neutral laakiin when it comes to the flag I respect that calan 150% waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclahay idil qaado Sufyaano arrinta sababtan ku weydiinayo 230,000 dowladda Mareykanku waxay kaaga bixisay waa hadalka adigu u dhigtay jaamacad u sarreeyay ee jaamacadaha dunida ugu sarreeya waxa kamid ah Harvard University oo Mareykanka ku taala highly respected maadada ugu badan $50,000 weeye Cambridge University Oxford University waxaan ka hadlaynaa dhowr iyo 10 baan ka hadlaynaa markaan eegay jaamacaddii adigu aad dhiganayso adigu aad afkaaga iiga sheegtay soo baartay waxay ii sheegeen maado 230 lagu barto inaysan jirin ujeedadaan ku weydiinaya saas ahayd adigu kuma weeraraynin inaan ku weeraro diyaar uma ihi inaan ku weeraro igama mudnid aqoon kuuma lihi xumaan kuuma qabo cuqdad kuuma qabo dhibaato imaada geysanin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxa jira that is how I work that is how I roll calankaan aadna mar aad la hadlaysay wariye Cabduqaadir Cumar Cabdulle oo ah wariye khiyaarta warbaahinta ka tirsan waxaad u sheegtay wareysigiisii idinku inaan siyaasad shuqul ku lahayn arrintaas sax miya absolutely laakiin takhasuskaagu waa siyaasad yes nin kale oo aan ka xiiri aqoonin ama qaliinka dhakhtar aan ahayn oo dadka qali aqoonin ma ogolaan lahayn inuu ku qalo ku hago waxaan rabaa adigana inaan kula wadaago maadaama hadda aad gashay su'aalihii aan ku ballanay inaan ka wada hadalno markaan ku leeyahay siyaasad ahaan ma taageersani group waxay micnaheedu u yahay waddanka Soomaaliya dawladda hadda ka talisa waa taageersana dawladda hadda imaan doontana waa taageerina tii hore u jirtana waa taageerina xisbi siyaasadeed oo gooniya ma taageerno nooc walba ahaade ama ha ahaado mid oo aan islaamiga ahayn ama mid islaamiga ha ahaado yes takhasuskayga waa siyaasadda waxaan soo bartay political science international relations political theory political psychology and political philosophy Spanish languages for majors and English takhasuskayga kaas weeye marka aniga waddanka suu yahay wuu yahay waddanka waxaa u taliya dadkaas ayaan hadda ku raacsanahay bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dooratay haddii ay yihiin ninaan waxba aqoonin oo aan hogaaminaya iyo haddayna hogaami karaan iyaga taas shacabka Soomaaliyeed ayaa doortay waa gartay actually su'aasheedu ma ahayn Sufyaano ma ahayn dawladda ma taageersan tahay iyo ma ka soo horjeeda I'm not interested in dawladda ujeedada su'aasha ku weydiiyay waxaad tiri calanka waxaad tiri siyaasad anagu shuqul kuma lihin haddana takhasuskaygu waa siyaasad
dadku waxay isweydiin karaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo loo hanwen yahay oo dhalinyarada dadkiisa iyo dalkiisa aqoontii uu dibadda ku soo bartay dib ugu soo celiyay maadadii uu soo bartay oo baahi loo qabo ana aan ka hadlaynin dee adar in laga garnaqay mudanta absolutely waxaan ku sheegayaa sababta aan macnaha siyaasaddu waxaan rabaa wariye fataax inaad fahamto siyaasadda marka laga hadlayo ama la leeyahay politics waxa la yiraahdo waxay leedahay variations oo kala duwan ay leedahay number 1 governing policy ama siyaasadda waddanka lagu dhaqayo dadka maamulka markaas ay sameeyaan ama isticmaalaan waxa noo haya dad aan dooranay oo Soomaali ay dooratay oo lagu heshiiyey nooc ay rabaan baa ahaade waxay ku dhaqmaan iyo qaabkay u dhaqmaani waa qabiil waa wadognahay ma aha politics aniga marka haddii aan maanta engage gareeyo political situations of my country waddankayga waxaan laga yaabaa inaan ku noqdo carqalad habu socodka habu wanaagu socodka waddanka Soomaaliya waqtigaygii lama joogo maalinta waqtigayga la yimaado waa galaya laakiin waxaan hadda ku jira shaqo kaleeto oo ayadu laftirkeedu dan muhiim ah ay ugu jirto waddanka oo ah in la bedelo astaanta qaranka calaamada kirishtaanka ay ku jirto la bedelo calanka buluuga oo anagu aanan samaynin la bedelo waxa la yiraahdo haybta korka la bedelo ama dib loo qoro taariikhda Soomaaliya shaqada aan ku jirno hadda aniga iyo kooxda talo ku noolba waa midaas ayada aan ku qanacsanahay waxaan aaminsanahay waddankeena Soomaaliyeed inay u tahay wax muhiim kooxdan talo ku nool adigu gudoomiyaha u tahay meeqa qof baa ka kooban tihiin dad magac loo bulshada taqaano oo ku jira ma jiraan oo sheegi karta mudane fataax waxaan leenahay wax la dhaho political strategy means markaan arrintan bilaabaynay waxaan degsanay qaacido maanta waxaa ku muuqata social media in iska daba dhac ay u soo dhacayso eedeymaha la soo jeedinayo oo beena sixroole weeye waa gaal wasranka soo dirsaday dadoo yaqaan ku jiro magaca waa su'aashaan rabaa inaan kaga jawaabo aan dhamay su'aashaan kaga jawaabo ilaa la yiraahdo waa nin dilaa oo dad u soo dilay arrintaas waxaan ogeyn inay imaanayso sidaas daraadeed ayaan waxaan leenahay mar kasta oo xaaladdu ay taagan tahay hal qof central committee ama guddiga dhexe hal qof baa banaanka jooga inta kalena waxay joogaan gudaha banaanka ma imaanayaan ilaa qofkaas uu meesha ka baxo ama loo baahdo xaaladdu isbedesho siyaasaddeena saasa sidaas adaniga ugu jeedaa xubnaha kaleeto tiradoodu waa 28 central committee xubno kaleeto waa jiraan talo ku noola laakiin kama mid aha central committee waa gartay waxaad ka hadlaysaan ma ahan team yara oo dan gaara ma aha dadkaan ka hadlaysid sidaan u fahmay hadalkaaga iyo waraysiyaadana ka dhuuxay waxay tahay inaad ummadda Soomaaliyeed iyo calankeeda badbaadisaan oo kana loo keenay aad bedeshaan waa hadalka u dhigtay dadka doonaya inay waxa sameeyaan oo ummad masiirkeeda ka hadlaya dhowr iyo 20 ba ha ahaadaan mararka qaarkood tayada iyo dadka yaraantooda iyo barnaamijka fiican dad yar oo wax qaban kara ka fiican waa soo dhaweynaa inay yartiin laakiin maadaama dantii guud aad ka hadlaysaan maxay ku dhacdeen hal qof oo kamid ah magacooda noo sheegi karinin oo ummadda Soomaaliyeed ay taqaano ixtiraam u hayso midaal baan ku siinayaa waxaa jira nin la yiraahdo professor Cabdi Ismaaciil Samatar Soomaalidu waa taqaanaa iyo mowqifkiisa waxay Soomaalidu taqaanaa professor Xuseen Warsame Soomaalidu waxay taqaanaa Yusra Abraar Soomaalidu waxay kaloo taqaanaa professor Cabdiqaadir Shirwax Dr. Abdullah Mansour these are credible Soomaalidu dalay taqaano hal qof oo Soomaalidu ay taqaano noo sheegi kartaa ma jira aan niraano war meeshaan odayaal baa yimid aqoonyahan baa yimid ikhyaar baa timid bal magac noo sheeg mar kale aan kugu celiyo adigoo mahadsan su'aashii aad markii hore weydiisaan kugu celinayaa therefore jawaabtii aan ku sii markii hore kugu celinaya annaga policy-geenu ayaa sidaas ah sababta aan u samaynayna saasna waxay tahay safety professoradaas aad sheegtay dhammaantood Soomaalidu waa taqaan of course laakiin ma ku jiraan shaqadoodana ma aysan diyaarsan ama uma aysan istaagin in ay qabtaan in ay bedelaan fundamentalists of the country aasaaska ama baseka waddanku ku fadhiyo inay bedelaan in calanka Soomaaliya la bedelo in astaanta qaranka la bedelo in haybta koorka la bedelo in dastuurka islaamka la qaato waa shaqo aad u culus waxaanan ognahay in aan wajahayno cadow fara badan oo dad fara badan maanta ay banaanka joogaan oo cadow aan leenahay therefore one person at a time halkii mar waxaan riski geli karnaa hal qof because dadkaani waa dad academiga waa dad wax soo bartay research inta sameeyeen lama rabo wixii ay soo barteen in hal mar ay baaba'aan waayo waxaa dhici karta cadowgu in uu keeno in hal mar dhibaata ay nagu wada timaado sidaa daraaddeed hal qof aa riskiga qaadanaya hadda anigaa ah ninka gudoomiyaha afayeenka ayaa markasta riskiga qaata maalintaan anuu ka baxo ama taydii ii timaado macnaha kama bixi kare ama taydii ay ii timaado maalintaas nin kala imaan doona sidaas ayaadna ku arki doontaa haddii aan yidhahdo policygeena saasa mana sheegayn waa gartay waxaa xusid mudan inaad tiri maaragtay amnigeena ayaan u baqanaynaa waxaa xusid mudan inaad Nairobi joogtid oo islii aad motorbike-yada aad raacdid iyo taksiyada dadku ay raacaan aadan amnigaaga u baqanayn laakiin dad kale aad qaranaysid waanu ka gudbaynaa dadweynaha u daynaynaa go'aan ay ka qaataan arrinta ayada anagu ku xukumi mayna dabcan waa ku weydiiyey waana ka jawaabtay mahadsanid inaad diidinna xaq baa u leedahay haddii aanu arrintaa ka sii soconno ka tagno arrinta calanka aanu u gudubno waxaad tiri heesta calanka
markaad ka sheekeynaysa waxaad tiri waxaa ku jira erayaal shirki ah ayaa ku jira ayaa tiri adoo soo koobaya bal 2 eray ama 3 eray oo shirki ah noo sheeg aan kaa dhegaysanay waxaan rabaa marka hore aad baa u mahadsan tahay su'aalihii aan diyaarka waa hadda bilowday waa thank you very much waxaan rabaa marka hore shacabka Soomaaliyeed in la wadaago horta heesta marka ugu horeysa ninka ku luqeeyay iyo ninka alifay labaduba waxay ahaayeen niman uu soo tababartay gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaani ninka ku luqeeyay Cabdullaahi Qarsho wuxuu ku dhashay Tanzania gobolka dhaho Kalimanjaro cadan ayaa lagu soo tababaray Soomaaliya soo galay asagoo 20 jira wuxuu la socday gumaysiga ninka kalena wuxuu ahaa sidaas oo kale nin gumaysiga uu soo tababartay ereyada marka ku jira ee shirkiga ahi waxay tahay in la yiraahdo xidig yahay cadi waad na ciidamisay ama xidig yahay waad na ciidamisay ama noo ciidamisay waa labaduba waa shirki waxaa kaloo ku jira in la yiraahdo shirki ku yihiin waxaan ku wada hadlaynaa luqadda Soomaaliga in la yiraahdo wax anagu gacanteena aan ku samaysanay sida la sheegayo ama gacan qof bini'aadani ay samaysay in la yiraahdo waad noo ciidamisay ama waad na caawisay oo la yiraahdo caway dhaha shirki weeye qof kasta oo luqadda Soomaaliga ku hadla sidaas u fahmi karaa haddii laakiin waa shirki weeye okay waxaan rabnaa inaan dul istaagno arrimahan because dhowr jeer baa soo celcelisay absolutely haddii aad tiraahdid waxaad gacantaada ku samaysay baa ku ciidamiyey ama lagu keenay wax kasta oo markaa sidaas oo kala ah oo lagu keenay ama gacantaada aad ku samaysay oo ku ciidamiya waa shirkada isticmaashid sax haddii aad bariso haddii aad tiraahdo adaan ku baryaynaa waa shirki ama aad u qirto in uu ku caawiyey aad u qirto in uu cudurkii iyo dhibaatadii kaa qaaday haddaad u qirto oo qiritaankaas aad muujiso shirki weeye waxaa iskale Allah subxaanahu wa tacaala kaligiisa iskale taas waa imaanaynaa caafimaadka ku taabatay oo caafimaadkii wax ku saabsan waa imaanaynaa awoodo waxaa jira ilaahay uu leeyahay aan cidna lala wadaajin karinin waa ku waafaqsanahay laakiin adigu hadda waxaad ka hadlaysaa aalad internet baad ka hadlaysaa internetkaas wuxuu sahlay aniga adigaba inuu na caawiyo laakiin midkeenna caamaayo marka waxaan rabaa inaa ii sheegtid hal qof oo Soomaali ah oo adigu aad taqaanid hadda waa shakhsi qura waxaa la yiraahdaa waa 20 milyan waa 12 milyan waa 30 milyan I would like to say we are 100 milyan because of course that way we waa ku raacsanaa taas milyan baan nahay 200 milyan baan nahay waxyaalo badan oo kale waa igu raaci doontaa waad soo socotaa waa ku jeedaa soo dhawow Soomaaliya waan rabaa sida Soomaali loo marti soo waxaa kaloo jira hadii wax macquul ah waa ku raacaya of course sidoo kale wixii macquul ah oo caqligu qaadan karo ama daliil diineed ah gacmaha lagu taagaya anigana sidaas oo kale aan ku sii socono isku meel baan wuxuu wadnaa sida reemuduga iskula dhuuqaynaa dhib ma lahan insha Allah waxaa jira waxaad ii sheegtaa hal meel oo qura oo Soomaali joogo oo xidig caabuday ama uu sujuuday ama macbud loo dhisay oo taqaaniin noo sheeg okay waxaan ku xusuusinayaa waddanka Soomaaliya marka calanka la saarayo galabtii subaxii la saarayo ama galabtii la dejinayo waa loo istaagaa haddaadan u istaagin ganax baad tahay oo lagu xiraya markaad calanka la saarayo sidaad hadda adigu samaynaysay waa inaad adigu hadda salaanaa saarta laakiin xabadkaa gacanta lagu qabsada calanka Soomaaliya marka la saarayo waa cibaado inaad u istaagto calanka oo u khushuucdo waa cibaado Allah iskale qof kale looma istaago waxaad ii sheegtaa marka waddan islaam ah dambi aysan ahayn waqtiga salaada la adimayo ama masaajidka loo socdo dadka inaan lagu ciqaabin oo qofku uu xor yahay markuu rabaadi karo calanka waqtiga la saarayana haddii aad dhaqdhaqaaqdo ama aadan xabadka gacanta saarin xabsi iyo ganaax aad tahay oo aad ogtaa nidaamkaas inuu u yaallo haddii aysan taasi ahayn caabuditaan la caabudayo calanka iyo xidigta dan luqadda Soomaaliga ku hagaag waxaan rabaa meeshay diinta kaga taalo calanka oo loo istaagay inay caabuditaanta inaan daliilka noo sheegtid daliilka diinigana waxaa la yidhahdaa laba meel buu ka yimaadaa دين وحال إلى هذا ما شرع الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إيه السنة آيات أما حديث لو استاج عالم كأنه ممنوع يعني كان يسمي يا شيخ وما سنتهي مركلته وحاجرته إسلامكو وحوليها قاعدة برورة وين وبلارن ولي وح عن الله سبحانه وتعالى أهين إن قفوا قسم يتواضع أما يسود الليو دين الإسلام كابنيس وحن رجيني أمانة إن هذين ويدين النسوء أشياء ماش أي كتها لطاس إن دين الإسلام كا وحن وركا إن تانين الإسلام حشمينا يا دين الإسلام كا إن لو استاجو أو خشوع لو صمي لو هكتو وحنا هين الله سبحانه وتعالى إن حبك أنت كنت لو صار لو آمسو لو هكتو أنا دقيقين هداد جذبت له حريو حبسنا اللي جوجيني فاينل لقى قاضيو وحنا الله سبحانه وتعالى ملا أريد أسيدا ما ملاين إن شك يجرو هدو شك كاجرو مرة أو أترى هذا ولي إيسي عدي وأنت سألنا كوكان عنين وحن سمينا إن أنكو صدر أدلوين كي أيوة بدن research كو معناها باريتان مو بهن أنكو سمايو وحد كل هذا وضو لهاي إن أدوي جسوا قفكو كوجودو الدين الإسلام كي يقانا هذا أدو أد إنكرسنت okay I'll put you on the spot
halkan waxa ii yaala laptop internet ku xiran ii sheeg meeshay ku jirto waa google garaynaa helina marka su'aasha dib aan kugu soo celinaa waxaad leedahay hadda adoo islaama in loo researchkii baan kuu soo dirayaa I have the resources online haddaan hayaa adoo fadhiyaan akhrinaynaa waxa ka soo baxaan arkaynaa ii sheeg meeshay ku qoran tahay calankoo loo istaagaa waa shirki diinta islaamka fadlan waxaa la rabaa qofka biniaadamka marka wax diido in maya haddaad iga diido su-aasha qoortaada waxa weeyaan haddaad tiraahdo in wax loo istaago ama tawaaduc loo sameeyo ilaahay waxaan ahaynay u bannaan tahay haddaad tidhaahdid waa kuu sheegaya afkaaga aan ka qaado hadda idheh waxaan in tawaaduc loo sameeyo allah wax ka soo haray waa bannaan tahay idhahdii waxaan isku raacnaa ani adiga waxaa wax qof walba oo soomaaliya u qirsan yahay in calanka soomaaliya loo istaago loo hogto aan la dhaqaaqi karin marka la saarayo marka la dhigayo loo heeso intaas dhan isku warna marka heesas la qaadayo haddaad dhaqaaqdo ama meel kale aado waxaa tahay ganaaxad diin dhan oo xiran okay waxaad ii sheegtay waxa dowladda markaa jirta ay samayso anigu kuma weydiinin dowladdu maxay samaysaa dadka ma xirtaa qofkii calanka u istaagi waaya waxaa kuma weydiinin anigu dowladdu waxay samaysay diin uma aqaano waxaan diin u aqaanaa wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey baan diin u aqaanaa sallallahu alayhi wasallam waa waxa loo yaqaano usulu diin asaaska diintu waa qur'aankii xadiiska sheekh baa yiri iyo wadaad carab qoray iyo wadaad Pakistan jooga fadwo soo saaray waxaan ma dhageysto now waxaan rabaa inaan mar kale ku weydiiyo waxaa tiri waa hayaa inay mamnuuc tahay calanka in loo istaago islaamka beeniyey waxaan ku yiri walaalo waxaad ii sheegtaa meeshay ku qoran tahay waa kuu soo dirayaa baa tiri haddaad ii soo diraysi waad og tahay fadlan ii sheeg waa google garaynaya dadkana daawanaya ayaan la wadaagayaa haddii aadan haynin waa ka gudbaynaa mawduucan qaybtiisa kale u gudbaynaa calanka shirkiga ku saabsan waxaa dhacday hadda ka hor taariikhda islaamka waxaa dhacay yuusuf calayhi salaam waa tii god lagu riday barisamaadkii aabihii yacquub ayuu usoo noqday oo nebi ah muxuu yacquub sameeyey adigaa noo bilaabay wad yacquub wiilkiisii ma u sujuudin mise uma sujuudin haye لا waxaan ku weydiinaya adaan ku weydiinaya ma arrintaa ma ka warqabtaa nacam in aayada quraanka ku taala nabi inay u sujuudeen ha markay u sujuudeen ma sujuudaasu ma cibaado ahayd mise waxay ahayd karaamo iyo sharaf lagu karaameynay marka waxaad rabtaa inaad tiraahdid sujuudii loo sujuuday waxaan rabo ma maya waxaad samaynaysaa red herring sujuudii loo sujuuday nebi yuusuf ay u sujuudeen wixii aayaddii 11 kowkab ay u sujuudeen walaalihiis iyo aabihiis iyo hooyadiis ma waxaad rabtaa inaad haddana tiraahdo waxay banaynaysaa taasi inaan qof binaadan u sujuudno ama aan u sujuudno is that what you gonna say markaan waraysigaan ku ballanay waxaad igu tiri xaasaskayga waxba igama weydiin karti waa kaa yeelay adigu su'aal ima weydiin karti anaa su'aasha ku weydiinaya waxay tahay su'aasha waxaan ku weydiinaya waxay tahay mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan wax cibaado u eg laakiin cibaado aan loola jeedinin therefore xadiiska u dambeeya fi saxiix al-bukhari waxa uu leeyahay ee cumar ibn khataab laga warinayo inama al-a'maal xadiiska horeeya inama al-a'maalu binniyat haddii anigu hadda adigoo ila jooga wejiga dhulka aan dhigo adiga ku caabudi maayo laakiin wax cibaado u eg baan sameeyey now qofka soomaaliga markuu calanka u istaago waa qadarin calanku waa maro wax kuma tari karo wax kuma siin karo wax kaama celin karo bal roob kaama celin karo marka dadka Soomaaliyeed aqligooda inaad ku ciyaarto oo tiraahdo marad caabudaysaan gaf bay kugu tahay and that is why I give you comparison go ahead okay. No so let me say this and I hope in other judgment ugu sameeyay because nin reporter judgment waa ka mamnuucda because opinion manifestation waxa iskale qof kula doodaya adiga mali and therefore sameeyay mardan baadin waa ku qaldan maya manifestation of opinion ma sameeyay maya haddaad tiraahdo waa qaldan tahay laba nin oo doodaya noqonayna wariyamihi markaas fine لكن وحي خلدنا كما قادنيو انا waxaan ku hadlayaa codka shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inaad khaldan tahay inta la hadlay ana waxaad igu tiraahdaa marka difference ku sameey waxaad tiraahdaa dad baa aaminsan inaad khaldan tahay laakiin adigu haddaad tirahdid straight forward waa khaldan tahay haddaad tirahdid macnaheedu waxa weeye opinion kaaga aad qiyaasaysaa marka waxay noqonaysaa inaad wariyihii title-kiisa iska dhigtay oo aan doodayno markaas waana ogolahay waa saxsan tahay boqolkiiba boqol baa ku saxsan tahay pointigaas aadana aan galno marka pointiga marka aan galno نبي يوسف سجود النبي يوسف من عباده سجود النبي يوسف او سجودي لو سجودي ان معناheedu waxay ahayd waa waqtigaas diintaas iyo kitaabkaas jiray kitaabkan kitaab ka duwan waa
salaadaha waa ogtahay cibaadadu say ahayd ramadaanka inta la soomi jiray waqtigaas cibaadada macnaha allah subxaanahu watacaala qoom walba kitaab uu soo dejiyey annaga nebi yuusuf kitaabkii loo soo dejiyey noloma soo dejin diintii nebi yuusuf waqtigeedii taalay ma aha diintani waa diin macnaha ayadii ka ballaaran ama allah subxaanahu watacaala because qoomkiisoo yaqaanay uu wax ka bedelay therefore comparison kuma samay kartid nebi yuusuf sujuudii loo sujuuday iyo maanta calanka in loo sujuuday inaysan dembi ahayn kuma samay kartid waxaana ku faraxsanahay inaad ila qaadatay maadaama comparison aa keentay inaa ila qaadatay in dadka soomaalida ahay calanka ay sujuudaan because haddaadan aaminsanayn inay saas tahay ma aada keentay comparison waana ku maasantahay saxa saaxib anaa ku sax daruuri waaye anigu ma aaminsanin dadka soomaalida inay calanka ay caabudaan waxaan aaminsanahay ogahay inay alla keliya caabudaan calankuna mara yara uu yahay qof kale calan baa la caabudaa iyo shirki baad ku jirtaan oo fikirkan cusub oo aan astaan aan sumadda lahayn wato waa adiguna kuu gaar yahay statement aanan samaynin haddaa saysid waa inaan ku celiyo aniga ma dhihin haddaan ku celiyo waxaan idhi waa record garaysan yihiin haddaan ku celiyo dadka soomaalida ayaa shaydaan caabuda ama calanka caabuda ma dhihin waxaan idhi dadka soomaalida waa islaam 100% waa dad ahlu cibaadaha laakiin waxaa nagu siray talyaanigii waxaa noo qoran hees cibaado ah calanka in loo hogtaana waa dembi waa cibaado micnaheeda marka waxaan rabaa inaad kala saartid soomaaliya calanka caabuda iyo calankani waa calan aan soomaali samayn waa calan cawaala uusan samayn waa calan astaan shaydaana talyaaniga noo keenay calaamada diinooda ku jira heesta loo sameeyaana waa hees cibaada that means micnaheeda taad ma aha soomaalida calanka caabuda ama soomaalida shaydaan caabuda ma aanan dhihin aniga okay let me just code you one more time waxaad tiri heesta calanka ee soomaalidu qaado waa loo istaagaa waana cibaada ma igu tiri mise iguma in loo istaaga calanka absolutely hase yeeshee day waxaa kala duwan correction waxaa kala duwan let me finish then you can correct because waa ku dhageystay give me some respect waa ku dhageystay waa ka aamusa i dhageyso absolutely go ahead waxaad tiri calanka oo loo istaagaa waa cibaado waa shirki soomaalidu markay si kalaanba kugu dhigayaaba anigu hadda markii calanka la saaro waa istaagaa calana waa saaraa laabtana waa qabsadaa inkastoo hadda aan la qabsanin waana ku faraxsan inaan qabsado berrina waa qabsan doonaa in you eyes adiga markaad aragtid cabdixafiin maxamuud jaamac oo taagan oo calankii la saarayo oo xaadiisa meel walba ay istaagtay qiiro uu qiiroonayo dhiiggii loo soo daashay calankan iyo ciidan iyo dhulkan sharafta badan ma waxaan ahay qof mushrik ah oo calanka caabudaya mise waxaan ahay qof muslim ah sidee u aragtaa qofka marka uu istaago calanka uu istaago u hogto heestaas qaado uusan dhaqaaqin waa qof qaldan oo la siray waana waxa reer tala ku noolaan u taagannahay inaan saxno cibaadada qofka inaan calanka la caabudin dadka soomaalida waa ogyihiin laakiin waxay ugu jiraan si aysan fahamsanayn fahamkaas ayaan rabnaa inaan saxno judgmentigeena haddaan reer tala ku noolnahay ma aha dadka soomaalida waa gaalo waa mushrikiin calanka ay caabudaan ma dhahayno waxaan dhahaynaa dadka soomaalida waa la siray waxaan waa naloo qariyey aan is saxno waxaan rabaa midda kale inaan kuu sheego calanka soomaaliya maantay aan haysano hal dhibic oo dhiiga looma daadin hal person uma dhimanin damage looma dhicin waa umaanina usoo soconaa you see what you did right there you play with the words laakiin alxamdulillah af soomaaliyana lagu gaadi kara maahi luqadan ingiriisku waa professor ku tahayna baryaan baalal ka jeexday oo I'm doing well so far dukaamada waxaa ka iibsan karaa no problem waxaad tiri heesta calanka waxaa ku jira ereya shirki ah laakiin dadka soomaaliyeed oo qaadaya shirki kuma jiraan waa khaldan yihiin hadday khaldan yihiin khaladka kaa dhaca iyo shirkigu waa laba shay oo kala duwan haddii qofku uu khalad ka dhaco suurat albaqara waxaa ku jirta rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na luqadda carabiga waa taqaanataan kaa dhegaystay waxaa jira waxa loo khata dhaca iyo mukhti oo ulakas ah laba waxoo kala fog weeye su-aashaan ku weydiiyey waxay ahayd haddii calanka soomaaliya la saaro oo aniga iyo dadka soomaaliyeed oo daawanaya aan soo istaagno marka la saaro oo aan laabta qabsanno oo ilmadu naga qubato oo xaaduna istaagto oo aan gacmaha iswada qabsanno waxa aan samaynayna ma cibaada oo ilaahay ma noogu caroonaya mise nooguma caroonayo yes or no igu dhamid karti waxaa ku xugminaya oo kala saaraya allah subxaanahu watacaala marka uu qur-aanka soo dejiyey wuxuu yidhi cafa allahu camaa salaf qofka dembiga marka uu xaqa ogaado oo uu fahmo haddii uu ku celiyo kadib dembiga markaasuu leeyahay qofka soomaaliga maanta marka ee og waxaani waxay yihiin ee u tagay culummada baaritaan sameeyey loo sheegay because waxaan hubaa qof caalima maanta oo diinta islaamka yaqaana markaad u tagto tiraadid in calanka loo istaago xabadka gacanta loo saaro loo hogto ma dembiyaa ma u malaynayo qof soomaaliya inuu ku dhahayo dembi maaha oo caalim oo shiiqa ama qof caqli leh
ma u malaynayno ku dhahayo weliba heestaan la qaaday marka la akhriyo ma ku dhahayo markaad ogaato kadib cafa allahu camaa salaf laakiin markaas kadib tilaabadaad qaadid waxaad ku jirtaa dembi waa kaa that's pointigaan raadinayay cafa allahu camaa salaf si fiican ma u garanaya waxay tahay macnaheeda laakiin waxaan kaa rabaa pointigaan raba inaan ku weydiiyo waxa uu yahay haddii la ii sheegay culummada waaweyn oo hadda soomaalida waxaa ka mid ah anigu shakhsiyan ixtiraamka u haya bulshaduna ay si fiican u ixtiraamto adiga kuma ogi waxa cidda sheekh ku ah iyo cidda diinta ku soo bartay adaa noo sheegi doona sheekh mustafa xaaji ismaaciil واحد من الخيار hadduu ninkaasu dibnaha kala qaado qalbigaaga wuu ku dhagayaa sababta ugu dhagayna waxa waaye wuxuu ka hadlaya waa wax qalbigaaga u dhow aad aaminsan tahay sheekh maxamed dirir allah u naxariisto iyo culimo kale oo sheekh maxamed dirir weli waa nool waxaan ka wadaa sheekh cumar faaruq hadda waa naga tegay allah u naxariisto waxaa kaloo jooga saaxiib alqur'aan alcadiim sheekh cabdirashiid cali suufi dadkaas aad arkaysid waa culumo hadday inta noo yimaadaan ay dhahaan war calanka aad u istaagaysaan waa khalad oo markaa kadib aan u istaagno adiga abu sufyaan ahaan aqoontaada diinta markaa kaashatid iyo tan maadiga waxaan ogahay in diimo fara badan lagu soo baray saad adigu afkaaga iga sheegtay inkastoo aan akhriyo ina diina cinda allahi alislaam kuwa kale oo u tegi doonaa fi suurati baqara dadkaas soomaaliyeed oo yiri war calankeenna waa u istaageen annagu caabudi mayna cibaado ilaahay baa iskale dadkaasu ma dad shirki ku jiraa mise dadaan shirki ku jirin wey markii su-aashii baad ku celisay jawaabtii baan markale kugu celinaya waxaa qofka bini aadamka xujadu waxay ku oogan tahay marka uu wax ogaado inta qofku uu jaahil ka yahay ama uusan ogeyn xujo kuma ogan laakiin marka aad macnaha aad barato waxaan ama shay lagu sheego research ama baaritaan inta samaysay aad soo ogaato culimada weydiiso lagu yiraahdo waxaani waa noocaas markaas kadib haddaad ku dhaga adeegto amaba aad go'aansato adoo wixii lagu sheegay dana kaleeto iyo caqiidooyin kaleeto iyo caadifad kaleeto oo jirta daraaddeed inaadan baarin aadan dhegaysan dee xujadii waa kugu ogantaa markaas wax allah subxaanahu watacaala ka soo haray oo kaalmo la weydiisan karaa ma jiraan wax allah subxaanahu watacaala ka soo haray oo wax caawi karaana ma jiraan calan yahow waadna caawisay waad noo ciidamisay adaa waxaasna siiyey caway dhaha waa shirki qofkaad rabtid oo islaamka yaqaana weydii وهجاج waxaan rabaa inaan arrintan cibaadada iyo ku saabsan wax yar ka durno laakiin waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo waxaa tiri nabi yuusuf iyo yacquub iyo gaar ahaan nabi yuusuf markaa waxaa tiri diintay haysteen diintaan oo kale maahayn diintay ayuu haystay nabi yuusuf kuma dhihin diintaan oo kale maahayn waxaan ku dhahay diinta ilaahay kitaabkiisu isku mid wey diimuhu ma kala duwana laakiin allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu noo sheegay aayad meesha lagama bixin ama laguma darin ilaa ujeeddo ayuu ka leeyahay matalan tusaale markaan ku siiyo qoomkii nabi muuse waxay soomi jireen inta anagu soona ka badan diintii lama bedelin laakiin waxaa la bedelay dadkii baa loo fududeeyey micnaha taas ku jira marka nabi yuusuf diintaan aan haysano diinta ilaahay isma bedelin marnaba saasaan ka wadaa okay nabi yuusuf muslim buu ahaa waa igu waafaqsanta absolutely ilaahay inuusan u shariig yeelin in la caabudo uusan ogolaan isagii aabihiina waa igu waafaqsanta absolutely in loo sujuudana waa igu waafaq sida aayadda qur-aanka ay leedahay adigu waa waafaqsanta aayadda qur-aanka absolutely waxa kitaabka ku yaala xaq waa marka dadkii waxaa sameeyey ambiyadaas ilaahay hortooda ma waxay ahaayeen dad ilaahay ka fog oo gaala ah mise muslimiin aragtidaada diineed allah subxaanahu watacaala haddaad xusuusato malaa'igta wuxuu ku yidhi u sujuuda nebi aadam yes allah subxaanahu watacaala asaa amre kaas yes kana ilaaha amray laakiin sujuudaasu cibaado maaha wax allah subxaanahu watacaala amray xigmadda allah annaga ma gaarno awooddeedana ma lihin waxay halkaas ay tusaysaa dadka diinta yaqaanaana si fiican u yaqaanaana ay garan karaan inaadan xaqiiqatan hoos aadan arrintaa u baarinin ama ay kaa qarsoon tahay shaydaan markii la yiri ibliis markii la yiri aadan u sujuud aadan caabud ma ahayn ilaahay maciisa marka nabigan loo sujuudayna sujuudu ma ahayn cibaado waa qadarin weeye hadde waxaad u malaynaysaa aniga laftirkaygu saasaan ku yidhi hadda adigaa raba inaad warkaygii macnaha dhinac kaloo maya markaan ma bedelayo malaa'igta allah subxaanahu watacaala waxaan idhi mar kale si dadku u maqlaan haddii aadan adigu maqlin malaa'igta allah subxaanahu watacaala wuxuu ku amray inay u sujuudaan nebi aadan malaa'igtoo dhan markii la amray in loo sujuudo nebi aadan allah ayaa amray waa xigmadda ilaahay ma gaari karna annaga waxa allah subxaanahu watacaala tanna amarayay ahayd annaga kitaabkeennan jaamaca waxaana lagu amray inaan loo sujuudi karin qof bini aadana inaan laysu raarici karin ama khushuuc ama tawaaduc loo samayn karin qof bini aadana ama shay kaleeto kitaabkan aan haysana maantay ayaa saas noo sheegay annagu markasta waxaan raacaynaa amarka allah subxaanahu watacaala waxaad kaloo ku qaldan tahay inaad comparison samayso sujuudii loo sujuuday nebi yuusuf iyo calanka in loo sujuudo inaad ku samayso aaday u qaldan tahay midna allah amray midna allah reebay right waxaan aboontigaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dadka soomaaliyeed inay baaraan ujeedada ilaahay uu ku yidhi aadan u sujuuda
waxa ay salka ku haysay iyo sujuudda nabiyullaahi yuusuf meesha kaliya ay ku qoran tahay anigu homeworkgeygana sameeyaan aaminsanahay meesha kaliya ay ku qoran tahay calanka in loo istaago ama loo sujuudo loo istaago ama salaan loo saaro waa kitaab uu qoray الشيخ محمد بن عبد الوهاب ninka la yiraahdo Fath al-Majid ka la yiraahdo kitaabkaas kaliya ayay ku qoran tahay intaan hadda halkan ku hayo tacliiq uu asagu saaray awgiis una ku soo qowdiyay waa shirkul asqar waxa la yiraahdo shirkiga yaryar bay ka mid tahay Sheikh Maxamed Cabdi Wahaab waa saxsan yahay waa khaldan yahay midna kuma oranayo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego kaliya maadaama adigu aadan hayn meeshay ku qoran tahay inaan kuu sheego ninka ayaa qoray waa ku maasan tahay mid kale aan rabaa inaan kugu daro waxa aan ka hadlayno annaga haddaan Soomaali nahay ma aha istaagida calanka kaliya ma istaagida calanka waa different manners waxaan ka hadlaynaa oo kaleeto in loo qaado hees lagu cadaynayo oo afka laga leeyahay shirki macnaha two different stage way sheekha wuxuu qoray rahimahullah waa shirkul asghar uu yiri in ba loo istaago calanka laakiin inta waxaan ku haynaa in loo heeso oo loo qirto oo loo ooyo adiga waxay leedahay xaada istaagta ilaa iga timaada hadda quraanka uu akhrinaayna probably xaada kuma istaagta ilaa kama timaado so imagine you don't know adigu hadda madin ayada quraanka حاجة يستكتر قرآن معناه ما ندي لكن واحد يقرأتي وحنا كورن قرآن كمركز آخر حاجة يستكتي ما يستكتو موضوع كمان نحلينين sidaas awgeed wax ka baxsan kuma oran kareenin hadii marka quraanka la akhriyo ay ilma igu soo istaagtana kuma sheegi lahayn adiga oo waa cibaado aniga rabbiga naga dhaxaysa macnaha aan ka wado waa runta oo hadda anigu kuma dhahay jaadbatigaas kuma samayn karo kuma dhihi karo ma oydid iyo waa oydaa iyo xaad kuma istaagto because aniga ma ogi taas waa personal thing oo adiga ku guran laakiin adiga ma aadan dhihin way macnaha aan ka wadana oo tusaalaha ka wadan waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliya ayaa arintaas adiga hadda aad samaysa qaba dad badan oo Soomaaliya ooya dad badan oo Soomaaliya burura dad badan oo Soomaaliya u xafrooda dad badan oo Soomaaliya calanka agtiisa laga mari karin at the same time diintoodii marka la aado ama kitaabkii la aado ama salaadii la aado waxa laga qofkaas inuu taariikh salaad yahay waxa laga qofkaas inuu salaada sidoo macna calanka ugu ooyo ama isu biinbiyo uusan isu biinbiinaynin dadka noocaas ayaan ka wadaa maane aniga ima aadan sheegin ma og cibaadadaada waxaan ila muuqata qof islaam oo ma sha Allah waana ku xumaynaya taas Allah kalaameeyo laba shayba waxaan jeclahay in bulshada Soomaaliyeed laga soo mari karin ay og inaad igu waafaqsan tahay salaada bahalkii islaamka iyo Soomaalinimada labadaas waxyaalood waa geedka jirridiisii weeye Soomaalinimada iyo islaamka iyo Soomaalinimada way ku waafaqsan Soomaalinimada noo fasir waxa ka wadi maya islaamku waa ku faaqsanahay Soomaalinimada noo fasir maxaa laga wadaa maalinta ay darsigaas u yimaado ayaan kaaga ku fasiri doonaa su'aalaha aan ku weydiinayo Soomaalinimo waxay tahay su'aalo kama taagna waa sadar dhan weeye aan ku sii socono arrimihii ku saabsanaa calanka waxaad sheegtay waxaad ka warrantay arrinta heesta calanka qaybo ka mida oo aad sheegtay adigu midkaan soo wadaan inuu si kale aan kugu dhigo waxaad tiri calankan buluuga waa naloo keeno wadamo badan baa isticmaalo Confederate flag weeyaan laga leeyahay dalka Mareykanka gaar ahaan Mississippi oo kale waxa qaata waa tiri Brigade General baa la siyaaba tiri markay qaataan xidig halkan waxaan u fiirinayaa qoraal baa yaala marka oo kula socda raalaha dawladashana Brigade General ka la siyaaba tiri marka adiga ujeedadaadu ahayd waxaan anagu ma lihi dad kale la wadaaga laakiin waxaan ognahay inay jiraan wadamo 10 ka badan oo calamadoodu ay isku mid yihiin maxaa ku macnaynaysaa waa maasan tahay waxaad muddaa connectionka inuu yaraaday su-aasha dambe igu celiyo waxaa jira wadamo 10 ka badan oo calamadooda isku og yihiin maxaad idinka waxaa jira wadamo waxaad tiri calankan Soomaaliyeed ee buluuga anagu ma lihin waa naloo keenay xataa Mareykanka isticmaala Brigade General ka la siiya ciidamada markii darajo ay la dalacsiyo waa maxaa la Confederate flag weeyaa tiri dagaal ugu galay laakiin waxaa jira wadamo fara badan oo calamadoodu ay almost ay yihiin identical isku eg yihiin isku midna yihiin marka in calan anagu aanu leenahay dad kale asagoo kale ay haystaan waxba yaraatay macna ma laha maadaama wadamo fara badan ay isku calamo yihiin misaal baan ku siinaya waa ku fahmay adu soo gal markaas misaal baan ku siinaya wadamadaas waxaa ka mid ah isku calanka ah oo calamadoodu ay isku nooca yihiin ama aadka ay isugu dhow yihiin oo aan la kala garanaynin waxaa ka mid ah Netherlands wadanka la yiraahdo iyo wadanka la yiraahdo Luxembourg oo kale waxaa ka mid ah Ireland iyo Ivory Coast Africa iyo Europe ay kala yaalaan calamadoodu way isku eg yihiin waxaa kale oo wadamadaas ka mid ah Australia iyo New Zealand calamadoodu isku eg yihiin waxa calamadoodu isku eg yihiin Venezuela iyo wadanka la yiraahdo Mexico way isku eg yihiin haddaad wadamada islaamka aad timaadid waxaad arkaysaa Masar iyo Yemen oo kale shimbir yar baa u dhaxaysa haddaad shimbirta ka qaadi waa isku mid weeyaan waxaad kaloo in badan ka hadashay arrintan bisha inaad rabtaan inaad keentaan oo tirahdaan calan bisha ku sawirantaan Kenya islaamka loo yaqaanaa
islaamka meel ay kaga qoran tahay bisha in islaamka uu leeyahay ma jirto waa wax cusmaaniyiintii ay keeneen sidaa awgeed waddanka la yidhaahdo Pakistan iyo Algeria labadooda calan waa identical marka midab yar oo u dhexeeya laga reebo what is the point haddii calankan cid kale ay haysato maxaa laga sheegnaa very good thank you very much and inta aad soo tirisay with a little reservation wa xaqiiq markaan kaleeyahay little reservation waxa weeyaan wadamadaas calaamadooda waa isku egyihiin annaga waxa aan diidanahay ma aha isku ekaanta waxa aan diidanahay annaga maba samaynba cawaale ma samayn calanka soomaali ma samayn taariikhda yaa sheegayso so ama ha isku ekaadeen ama yaysan isku ekaanin waxaa kuu diidaysa haddii la weylahaa taariikh sheegaysa in calankan meel kale laga keenay ama talyaanigu uu sameeyey soomaali u yaalay 1889 haddii la weylahaa kuma aanan mashquulina waxaan dhihi lahayn probably waa isku ekaa kara ufahmino midda marka kuu diidaysa oo doodaas baa ka sokaysaba ood u baahan tahay inaad xalliso intaan la gaarintaas calanka aan maanta haysano isagoo hoosta guduudka qayb hoose saddex qaybood leh qaybta kore oo ahayd crownkii oo ahayd boqortooyadii sheegaysa markaas inay ahayd boqortooyo talyaanigu ahayd qaybta hoose oo laba xidigood oo ka turjumaysay dhiiggii talyaaniga ee ku daata Soomaaliya qaybta hoose oo qaybta dhexe oo calankii buluuga oo xidigta dhexda kule oo shabeelkii leh astaanta lagu darale waxa talyaanigu uu keenay Soomaaliya 1889 therefore dooda aad sheegayso ahaa isu ekaanshaha waxaa ka hor imaanaysaba oo ka horeysaba horta marka hore anagu ma samayn fine kaba soo qaad haddii dooda adiga lagu raaco ka soo qaad wadaad yar oo talyaaniga oo masiixiya sameeyo doonaya inuu la lumiyo calankan hadda buluuga ah oo xidigta cad dhexda ku leh ma waxa ku taala calaamad cross no what is your problem then my problem is saddex shay calaamada crosska calanka kuma taalo calanka waxa ku taala waxa la yiraahdo pentagramku waa astaan diineed waa mid labaad anagu ma samaysan xagee kaga taala mid aan kala qaadno mid xagee kaga taala calaamada aan sheegaysid oo astaamin diiwaanka xidigta waxaan u naqaan xidigta ocean geeska maadaama tiri Google ay yaala Google Gray waxa Google garaysa the symbol of pentagram muxuu symbol yahay pentagramku wuxuu symbol yahay afar diinood Satanism Wiccas neo-paganism and diinta kale oo la yiraahdo waxa la yiraahdo Kabbalah afartaas ba calaamada u tahay pentagramka waxa la isticmaalay intaas oo sano waxa isticmaalay mutaxariinta waxa kaloo calaamada xidigtahay ay ku jirtaa aan dhihine oo iska leh oo ay loo keeno meesha noo galiyay wadanka talyaaniga the coat of arms of Italia ama astaanta qaranka ee Soomaaliya talyaaniga aan dhaho waxa ku jirta xidigta cad ee shangeeska ee Soomaaliya calankeeda uu galiyay ee loo yaqaano talyaaniga marka la joogo Estrella d'Italia ama xidigtii talyaaniga almost waxay la mid tahay xidigtaasi aan soo inaad hadda arkaysid waxay la mid tahay wadanka New Zealand iyo wadanka Australia waxa ku jira Union Jack calan loo waxa lagu jira oo symbol u yahay inay yihiin wadamo hoos yimaada boqortooyada talyaaniga ama dhaho boqortooyada Ingiriiska Commonwealth si toos Union Jack waxa ma hadla kan hadda inuu yahay Union Jack jawaabta igu jira waxa mareeyaa gaar that is Union Jack wuxuu Union Jack hal markaad isticmaalo Union Jack intaan hay'ad hadalin warka waa ku ogola waqtigaaga Union Jack wuxuu ku dhex jiraa calanka Australia calanka New Zealand waa indicative wuxuu cadeynayaa inay hoos tagaan boqorada Ingiriiska inay hoos tagaan annaga marka calankeena xidigta dul saaran ee xidigta cadahi waxay si toos ah uga timid ama soo galiyay talyaaniga waxay hore ugu jirtay calankii hore oo talyaanigu uu 1889 keenay waa la bedelay 1936 qaybtii kore ee crownka ahayd waxaa lagu bedelay calaamadii fascist markii talyaanigu noqdo fascist isla ayadii baa noo taala wali astaanta qaranka maanta aan leenahay ee Soomaaliya mushkiladu waxay tahay wax badan baad oranaysaa u baahan in la dul istaago marka waxay ku fiican tahay inaan goosgoosano waxaan isku waafaqsanahay calanka buluuga oo xidigta dhexda kule inuusan lahayn symbol ama calaamad gaalnimo Christian talyaanigu waa Christian asaga keenay baa tiri dadkan hadda aad sheegayso ay kamid yihiin secret society-ga waxa la yiraahdo iyo dadka la midka markaad eegtid symboliskooda haba yaraatee xidigtu qayb kama ahan qaar Star of David wata ku jira xidigta Nabiyullaahi Daawud uu yaqaan calanka Yuhuudda ku dhigan si ayagu u sheegaan hadalka ayaa ka muuqata laakiin waxa halkan sidoo kale ka muuqata oo aad ka hadashay oo aad lahayd calanka Soomaaliya marka la sameynayay inay Soomaalidu aysan sameynin loo keenay haddii talyaanigu uu calan keenay waa doodta aad u hadalka u dhigtay talyaanigu uu yahay dawlad Christian oo Roman Catholic ah qaarkood Protestant bay leeyihiin diimo kala duwan baa lagu soo baray taqaana ay leeyihiin
maxay noogu keeni waayeen mid calankoodii iyo diintoodii oo xidigta noola doorteen waxaa dhinaca kale argumentaas yaalla aan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala waraysi lala yeeshay muwaadinka soomaaliyeed oo soomaalida isku waafaqsan tahay intooda badan inuu calanka sameeyey marka qof kalaa la sheegaa labadooda waa isku mid oo laba nin oo soomaaliyeed maxamed cawaale liibaan waraysi laga qaaday afkiisa ku leeyahay anaa gacanteeda ku sameeyey cidna igama dambaynin maxaan adiga kuu dhegaysanaynaa oo asagaana u dhegaysanaya dadkii lamid ahaa SYL iyo dadkii usoo dagaalamay xornimada Thank you very much, Fatah. And waxaad weydiisay su'aal waxaa tiri Talyaanigu waa Catholic iyo Protestant. Maxay u geli waayeen calaamadii Catholiga ama calaamadii Protestant maxay u geli waayeen? Waxaad tiri ama aan isku waafaqnay calanka xidigta ma aha waxa calaamadii Kirishtaan ku jirta. Waa astaanta qaranka ee maantay qof Soomaaliya oo sheegta oo sameeyay uusan jirin una qoran Talyaaniga lana yaqaano qofkii sameeyay maantay taariikhdiisa aan hayno. waxaa ku jirta calaamadda Kirishtaanka ee la yaqaano loo yiraahdo Greek Christian Cross waxay ugu jirtaa meesha kore su'aashaadii marka ahayd maxay noogu geli waayeen sidaas aan uga jawaab waxa kale ka tageen oo ahayd in aan yeelano halku dhig wadanku inuu leeyahay qaybta hoose ee bannerka ee caalamka ugu qoran halku dhig wadan kasta ugu qoran yahay anaga waa noo maranta wax noogu qoran taasaasaan uga tagaya astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa sameeyay Talyaani astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa ku jira calanka buluuga haddii marka calankii buluuga ahaa ee astaanta qaranka iyo wixii dhama ku dhamaystiran yihiin Talyaaniga ay u qoran tahay adna aadan ugu diiri karin oo dan dhigi karin maanta qof Soomaaliya ha sameeyo dan dhigi karin oo dan sheegi karin yaa sameeyay ya taariikhda marka yaa sameeyay waxa halkan jooga oo hadlaya nin la yiraahdo Maxamed Cawaale Liibaan oo Maxamed qaranku sheegtay astaanta qaranka ma sheegan wali okay anagu waxaan ka hadlaynaa oo hadda anagu aan haysanaa eeg astaanta qaranka waxa ku jira labada shabeel oo aad ka hadashay in badan Talyaanigu shabeel ma laha aniga waa iga jaahil bixi macnaha wax waay ma rabo inaad su'aalaha intaad weydiiso hadana dhinac kale uga baxdid markaan xaqiiqda keeno astaanta qaranka ee Soomaaliya waxaad leedahay calankan waxa keenay oo noo sameeyay dawladda Talyaaniga waxaad leedahay maya astaan Kirishtaan kuma taalo oo waa astaanta Kirishtaanku ma dhihin astaan Kirishtaan kuma taalo waxaan ku astaanta Kirishtaanku waxay ku jirtaa astaanta qaranka right so aan la qaadno because inay isfahanaan rabnaa calanka buluuga oo markii aan saarnay oo heesta loo qaadayay aanu halkan ka saarnay caawa calankaas waxaad aaminsan tahay inaysan ku jirinin astaan ka turjumaysa diin aan diinta islaamka ahayn no ma aaminsan waxaan aaminsanahay inay ku jirto astaan ka turjumaysa afar diinood waxaad sheegaysaa xidigta yes so xidigtu afar diimood bay ka turjumaysaa calaamad caalamka dhan lagu yaqaano afar diimood Satanism Wiccans Neopagans Kabbalah you can Google it right now hadda Google gare waxa halkan ka muuqata intaas oo maxaa la lahaa symbols ama maxaa la lahaa logooyin ah oo aan maxaa la lahaa dad kala duwan ay sheeganayaan haddii ayagu ay sheegteen oo ayagu ay saas u haystaan waa ayaga iyo qushigooda annaga Soomaali Maxamed baana la yiraahdaa shanta waxay ahaan lahayd ayaga qushigooda waxay ahaan lahayd Sufyaan هذا اسكو دنتي هل خبر يلالي ستيتمنت ها سمين سؤالي ويدي مركز waxa kale ka ستيتمنت sameeyay ستيتمنت yana ka jawaab qasban waxaan halkan ku haystaa resource aad adigu haysanin ama aad hore u aragtay ay ka google laakiin abdiftax loo haysto baydan fitax adigi ku ii soo dhigay calanka loo taageeray shirkada ay adigi ku guul daraystay u kala xamay resource ka haysto waa ka guulaystay haddii aad leedahay dhegayso hal xaba kuma heshii karno wari aan ahay haddana opinionkaygaan sheegaya kuma heshii karno isma raacdo iyada ama wariye noqo ama ka doonna arrinta labada dhinac noolba macnaha waxaan ku xushmaynayaa inaad kugu yiri laakiin marka aanu kula hadlayo dadweynaha aan kala helno dadkan diimaha kala duwan sheeganayo aad leedahay xidigtu diimo kala duwan bay u taagan tahay ayagu siday u arkaan weeye annagu mas'uul kama nihin maxamed xarun ciikaadi ayagu waxay u arkaan weeye ukaadi waxay ayagu u arkaan weeye annagu waxaan u aragnaa xidigtaanu inay shanta Soomaaliyeed ka turjumaysa saarsan u haysana ayagu laguma haystaan annaguna tooda kuma haysano Ciisa bidiin Muusa bidiin baa la yiri ummadda Soomaaliyeed inaad u qabato tiraahdo dad baa waxaan wax u eg haysta oo waa khaldan yihiin waa ku khaldan tahay waxa ugu khaldan tahay ayagu waxay u haystaan ayaga ka mas'uula quraanka wuxuu leeyahay ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى مسؤول لكن absolutely waxaad samaynaysid fair ma marka laan kuugu celina opinion iyo reporter isma raacaan
either سؤال ويدي سؤال ويدي أنا قصدي كوا ممتع أنا ويدي سؤال ما فيري أنا قصدي كوا هذه سؤال أنا ويدي waxaad adigu ii sheegtay baan soo qaaday waa google gareeyay waxa halkan ka muuqata 2000 different logos ayagu waxay aaminsan yihiin waa gooni look ina istari waa qaldan tahay waxaa leedahay that is lack of intelligence waxaan u jeedaa inaad meel cilaa ka beerayso ma haysato calaamad ay caabudo waxay u haystaan shanta Soomaaliyeed inaan hadlo mise maanta aan hadlo waa ku sugaa waa ku dulqaadanaa iska hadal maraha hadlayo oo ma haba soo booleysa haba meel baa u cararaysaa maya hada opinion samaynin no opinion ma samaynin waxaan ku iri qaladka aad gelaysid waxay tahay fiiri ani waxay leedahay opinion ha samaynin adigu let me make this point and I'll give you waa qaldan tahay sababtaan ku iri I'll put in context don't take my words out of context hadalka jumla ahaan u qaado haddaan ku iraahdo waxay la mid tahay waxaad igu eedeynaysid ninkii lagu yiri oo kale waxa lagu yiri adigana maantay you don't have a point a single point oo defend galaysid male hadda waxaa leedahay lakum diintaan ka hadlaysid adiga ma samaysan waa lagu keenay how you gonna say marka waxa weeyaan ayagu tooda qaatan inuu tana qaatan adiga ma samaysan be hadda wax samaynayd ha laakiin adiga ma samaysan talyaani oo keenay wala loo soo dhigay wala loo keenay wala loo qoray saas ku qaadanay hadda adiga samaynayd oo qof Soomaali uu samaynaha ha waa qaadanahay waa ku joogina dooda good ila khaldan tahay marka aan ku tuso haduu qof Soomaaliya sameeyo ku kala cami no waa khaldan tahay ma wax saxaafada ka baxsan lagu dhaw waxa waa ku khaldan tahay ما no dadka khaladaadka ugu badan Soomaalida ka gala waa mutacallimiin oo fikra khaldan aan markaan meeshan soo fadhiisanayo oo wareysigan ka aqbalay waa ogaa dooda calanka iyo waxaad ka qabtay waa ogaa inaad bias tahay oo aad aaminsan tahay waa ogaa inaad difaacanaysan waa ogaa yet waa ka aqbalay inaan ku imaado so respect me opinion kayga inaad dhageysatid laakiin inaad macnaha anagoo live ku jirnaa tiraahdo waa qaldan tahay micnaheedu waxay ku tusaysaa inaadan aayad hayn ee waxaad haystaa tahay inaad nin odaya xagato taasna ceeb waa ani weli waa dadka ma ku dhihin okay waa ku dhageystay aan kala baxno horta arrinta ku saabsan nin aqoon-yahana ahay waa khaldan tahay lama oran karo Umar bin Khattab baa minbarka laga ridiyay adigu Umar kama fiicnid kow dadka Soomaalida dhibaatada ku hayana waxaa ka mid ah dad wadamo qalaad inta taga fikrado khaldan soo guuriyo oo yiraahdo aqoon-yahan baan ahay oo buugaag wata marka in lagu yiraahdo waa khaldan tahay inay humble ka dhigtay ahayd Imaam Shaafici wuxuu yiri waxaan jecelahay markaan qof doodno in aniga la iga guuleysto oo anigu aan guuleysan macnaheedu waxa uu tawaabta diin laga hadlayo waxaan ka hadlaynaa diin ma waxaan ka hadlaynaa wax weeyaan ay Christianka ka hadlayo diimaha qalaad soo baray 200 iyo macnaha waxaan ka hadlaynaa kitaabka ayad quran xadiid waxaan ka hadlaynaa wax weeyaan facts of history aadan ogolaanin oo aad u difaacayso caadifad kale ku hayso أنا ولا هذا سيد لبنان الصومالية دقيسو سيد لبنان الصومالية ولا هذا علن كي أستانت هذا دفاعك توقع أقوله دفاع لكن هيدين هيديك نيك الأوسمي أنا وسهر وأنا قادر أساكو كاني wake up حفيد هذين الصومالية هذا أوسميو أن هيديك كله أو ماشي تروشان كيس هيك هذا اللي جيس اللي نكسميه الصومالية ما قادرنيش هدي أنا حقيقينه دقيسو هدي أنا حقيقينه وحن قف صومالي إنه سميه oo aanan u haynin annaga reetalo ku nool haddii aan ogaalahayn inuu qof Soomaali uu sameeyo oo runta ay tahay cawaale inuu sameeyo ma aanan gelinin dooda aan gelinin waxaan ka bixi lahayn dooda dhinac kale waxaan dhihi lahayn waraan iska saxno laakiin hadda waxa meesha yaalahay cawaale ma sameeyo cawaale in lagu haystay wareysigiisa uu bixiyo 1983 cawaale marka uu leeyahay anaa gacanteeda ku sameeyay tuulada ku xigta wuxuu ku darayaa dad ayaa igu haysta ama dadka igu haysta waa beentood waqtigaas lagu haysta cawaale waqtigaas looga calanka cawaale inuu sameeyo isaga qiraya maya I think waraysigaas waa duuban yahay mar rabina waqti ku bixiyo I think waraysigaas laba jeer baan dhageystay calanka lagu haystay xawaala kama wadanin ajnabi ay ugu haystay ee Soomaalida dhexdeedu ka hadlayay iyo dadkii consulka uu hor istaagay ayuu ka hadlayay waxa dad baa lahaa anagu sameeyay mid kale laakiin calan baa cirka ka xawaala wuxuu yiri waxa la yiri dad baa u sameeyay asagoo ma sameeyay waa loo soo dhiibay sidaas la igu eedeeyay okay waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo arintan cibaadada iyo calanka ku saabsan وري عبد القادر عمر عبد الله مركا ورئيسك سينيسي واحد سوق على تأريجا هوري واحد نكون معنا يسي وانا دوميها طبعا بين كام شيء انا كاشي انا حاجه كده واحد كون معنا يسي glory to be hooray yeah hooray where did you get that from do you have Webster dictionary I have Oxford dictionary here write Webster dictionary
Webster Dictionary and write hooray, H-U-R-R-Y. I'm a H-U-R-Y. And then see what it says. Hooray. Waxa uu ku leeyahay Oxford Dictionary wuxuu ku leeyahay hooray waa joy of approval. Yes. Joy of approval. Joy of approval weeye buu ku leeyahay. maxaa kale haddaad ka fiiriso wuxuu ku sheegayaa ereygan in la isticmaalay markii u horreysay 440 sano ka hor 1517kii meelaas in la isticmaalay biblicalna dhowr jeer baa la isticmaalay oo book of Isaiah ayuu ku qoran yahay dabcan Christian Bible-ka oo sumcad taqaana ereyga glory to be waxa uu ku macnaynayaa inuu yahay wax uu qofku ku farxay uu markaasna aqbalay soo haddii Soomaalida calankii aqbashay ayna ku farxday xagee cibaadadu ku soo galaysa waxaan horta ku faraxsanahay markuu horeysa aniga hadda hortaydu yaalaa Webster Dictionary wuxuu leeyahay glory to be hoos u socdaa u socotid midda adigu ku farxdana aad sheegtana waa sax oo ah joy expression of joy micnaheeda wax weeyaan markaas in la tuso ama la sheego ama la cadeeyo in loo hayo wax la yiraahdo respect as a joy loo khushuuco la tuso in laysu tawaaduc loo sameeyo micnaha ereyga saas wuxuuna la mid yahay ereyga ah ralo respect iyo khushuuc laba wuxuu aad u kala fog weeye respect waa ixtiraam respect waa ixtiraam khushuucna waa wax cibaado lagu leh aye maxaa u jeedaa hadda so ereyga glory to be waxaan ognahay inuu quraanka ku soo arooray I don't know inaad la socotiin kala ma la socota oo la yiri ma la socota horta maxaa la yiri horta ii sheeg adiga ma la socota ay dhina ii sheeg waxaas uu yiri waxaan mooday su'aalaha ku weydiinayo wariyahay no waxaan rabaa ma taqaanaa markaad statement aad samaysid make it follow up ma ogtahay inuu saas yahay may adaa follow up samaynaya inta hore su'aal ku weydiinaya ma la socota glory to be na quraanka ku soo aroortay markii ugu horeysay xagee uga soo aroortay so waxaan u arkayaa inaad ama ka baqanaysid waxa soo socda ama maaragtay aadan aqoonin siday doonto ba ahaatee suuradda leeyahay qad aflax ayuu ilaahay kaga hadlay markuu insaanka abuuray uu ka hadlayay uu leeyahay ثم أنشأ له خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين عبد الله يوسف علي translation in the English language فتبارك الله أحسن الخالقين glory to Allah the best to create that is translation of English glory to be quraanka kuma soo aroori waxaan ku sugayay inaan ogaado meesha u socotid this is a translation quraanka translationku ma gaaro erey ayad quraanka meesha ku aragtid haddii translation loo sameeyo weli waxba ka dhiman I hope inaad aragtaa maanta no very good waa ku waafaqsanahay oo quraanku waa ka sameeyaa waxaas oo waxaan ognahay inuu ilaahay leeyahay wala ta'lamuna nabahu ba'da hiin maalin walba cusub baa laga ogaanayaa taas kama taagna aayadan fatabaarakallahu ahsanul khaaliqiin af ingiriis ku tafsir maadaama aad intaanaan halkaas aadin su-aasha meesha wax waaye anigu waxaad igu marti qaaday inaan ka doodno calanka iyo astaanta qaranka haddana waxaan aadnay macnaha inaad weydiiso aayada quraane iyo waxay yihiin iyo translationkooda inaad weydiisid ma waxaad isku dayaysaa waqtiga inaad lumisid mase waxaad u socotaa meel haddaad meesha u socotid tag haddaad waqtiga inaad lumisid u sheegtidna dee waa wax kale iyadu let us talk about the flag and the coat of arms right adiga ayaa waxaa tiri فتبارك glory to Allah glory to be ayaad ku macnaysay arrinta arrintan iyo cibaadada aan waxa soo ku dhageystay anigu cibaadada ma keeninin adiga keenay oo yiri calanka loo qushuucayo cibaado weeye marka erey adigu aan isticmaashay oo af Ingiriis ah ayaan soo qaatay now waxaan ku siiyay aayado quraana oo ereygaas macnaynaya waxa tiri quraanku wuu ka sareeyaa waana ku waafaqsanahay فضلا فتبارك الله احسن الخالقين عربي تقانا ديمها لو سو بري متعلم باتاي بروفيسور باتاي فتبارك الله احسن الخالقين انجليزكم معني no I am not going to do that ما كون معنينا انجليش absolutely very good because ما subject كان كلين واكا gudbayna dawlaasha u deerina subject ku yahay dawlaasha markaan sharxayo hurraa waa erey English looga hadlo wadan English u qoran Englishka an American language Soomaaliya sheegay kitaabka kama soo qorin ani ereyga hurraa markaan sharxayay wuxuu ahaa erey wadan iska leeyahay ama luqadda Ingiriiska ama ay isticmaalaan dadka Kirishtaanku ay isticmaalaan looga hadlo wadan Ingiriiska luqadiisu ay tahay micnihiisa ay ka wadaanna fahmayay aan u sharaxayay ereyga micnihiisana dictionary-ga aan ka fiiriyay oo exactly hadda aan wada jirno labadaba saan u sharxay inuu yahay meesha marka macnaha waxaad rabtaa inaad sheekadii ka galgalatid rabtaa because calankii ma difaaci kartid marka waxaad ilaahay kitaabkii ereyga glory to be adiga ayaa soo daliishaday adigoo ka hadlaya calanka Soomaaliya saasaan kugu keenay no waxaan ka hadlayay halka u kaadi Banapul brothers ka hadlaysay yes and comparison comparison marka sharxayay
haddaan saxsanahay qabo waxaad ka hadlaysay Pineapple Brothers waxaad ka hadlaysay niman la yiraahdo calanka hees loo qaaday ayaad ka hadlaysay oo tan Soomaaliya loo barbar dhigay calankee hees loo qaaday calanka buluuga nimanka Mareykanku ay haystaan ayaad ka hadlaysay ya okay ka soo don't worry aye calankaas aan sharxay heestiisa Bonnie Blue Flag yes heestiisa qaaday waxaan comparison kula sameeyay heesta calanka Soomaaliya isku meel baan u soconaa heestaas adoo sharxaya ayaa waxa soo galay ereyga hooray ayaad macnaysay waxaan marka fasiray hooray waxa uu ku yahay in English language iyo sida ay isu leeyihiin ereyga ah awoy iyo hooray that is a comparison aan sameeyay so waxba kuguma eedayn waxa tiri uma soo guuriyo anigu so now was he jeezo waxay ma aan dhihin dhinaca inta u jeeso koonfur dirta waxay ma aan dhihin aniga hadda waxaad tiri kitaabka ka soo xigta ay quraana sheegtay calanka Soomaaliya ka tiri waxaas ma dhihin waxaan sharxay hees English oo u taala loo qoray loo qaado calanka la yiraahdo Bonnie Blue Flag oo la mid ah calanka Soomaaliya oo asalkiisa meeluhu ka yimid oo dad ay leeyihiin heestii Englishka ee la akhriyay waa sharxay ereyga ugu dambeeya hooray wuxuu yahan sheegay waxaan kaloon la barbar dhigay ereyga Soomaaliga ee aan ku yaala meesha oo la yiraahdo awoydaha that is a comparison I made isku barbar dhigan sameeyay kaas oo ma ayna quraan maya ayad quraan kuma dhin anigu waxaan kuula aaday waxaan rabay oo kaliya dadku inay ogaadaan dadkeenu af Ingiriis ma yaqaanaan adigu Ingiriis ma ku fahmba waxaan ku sharxaa Soomaali markii hore ya Allah yakhliik cabara hadlaysa waxay u kaadi af Ingiriis Soomaali baad ku sharaxday Ingiriisna waa ku sheegtay waxaas oo dhan waa sax weeye laakiin sidaad u waday cawo iyo waxaan isbarbar dhigtay ereyga hooray ayaad isbarbar dhigtay anigu waxaan rabay marka inaan kuu cadeeyo ereyga hooray sidaad adigu u isticmaashay waxay ahayd arrin la jaan qaadaysa barnaamijka adigu aad wadatid necessarily aysan ahayn according to the Oxford English Dictionary inaysan sida aad u heysid kaliya aysan ahayn adigu marka ma Webster Dictionary ka fiiri glory be to aniga ma Webster showay anagu Ingiriis baan nahay wax alla wax Ingiriis ku hadla halka Oxford nala aadin Oxford ereyga ma ahayn ina xagga kala aadeeyahay raalina ho xagga ila aadeeyahay meesha aniga igu eedeysay koonfur ba aadadina xagga ila aadanabtay soo way isfahanayaan adigu ragadi waa soo gabagabeynaa saacad iyo 20 ma hadlayna xaqiiqatan waxa islaanu saac ka dhig laakiin waxaad u egtaa in radio Muqdisho ka soo shaqeeyay oo aad iyo aad u hadal badan waa sida lagu weedeeyo radio Muqdisho waa ka soo shaqeeyay been ma okay waa gartay waxa jira intaan u gudbin just radio Muqdisho barnaamijka kaliya rabaa maskaxdayda kuma jira hadda igu soo dhacday magacaaga saxda inaad bedeshay markaad Mareykanka tagtay magac kale lagu yaqaan maxaa ka jira soo arinta calanka aan dhameeyno marka hore kadib taasaan u gudbino diyaarana waa kaaga jawaabaa su'aashaas ma rabnaa waqti u bixino jirnaa saacad rabaa maxaa lagu oran jiray pakeeye oday waxaa tahay nin akhyaar oo Soomaaliya thank you pakeeye ma naynaasa mise waa magac maxay ku leegta adaa ii sheegay well macnaha pakeeye marka naynaas weey magac marka yaa waa lagu oran jiray tana waa naynaas weey pakeeye waa naynaastayda ilaa hadda la yiraahdaa waa la ii yaqaanaa wax qarsoon ma aha dadkii intaas hadda meesha Nairobi aan joognaa la igu yaraa pakeeye wax qarsoon ma aha waa gartay laakiin waa naynaas odayaashu markay duqoobaan oo aniga adigoo kale meesha ay tagaan naanasihii hore xoogaa waa ka yara leexdaan amshu inay gudaha haystaa aan kula kaftaba waxaan rabaa saaxiib waayahan dambe waxa weeye raggii da'dii waa lagu kari waayey laakiin waxaan ku faraxsanahay oday Soomaaliyeed inaad tahay aad raalli ka tahay waa ka gudbaynaa waxaan rabaa soo gabagabayno arrintan oo aan ku soo gabagabayno arrin adigu aad xaray ka hadashay astaanta qaranka maadan taaban weli calankii bisa xoogaa ka hadashay astaanta qaranka weli maadan taaban anaa igu yiri calankan ka hadlayna astaanta qaranka umaadan darin marka dib baad ka keenay ka soco haye mar haddaad diiday ma kugu qasbaayo ma diidinina mawduucani bay tahay marka waxaan rabay calankii in uu yahay maaragtay adigu aad xiddigtu inay ka timid diimo kale annagu waxaan u haysanaa waa kuu sheegay dadweynaha Soomaaliyeed calankan anaga aanan samayn calankan cawaali laakiin dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u soo dayn doonaa halkan ku qaban doonaa maxamed cawaale liibaan oo hal iyo dad kale oo Soomaaliya qof Soomaali ka qarsoon yahay ma jiro waraysigii uu duubay 1983 very famous qof walba Soomaaliya yaqaana waana duuban yahay aniga dhowr maran daawaday waana la wada ogyahay waa ka gudbaynaa waxaad idinku hadda keenteen calan oranaya dhexda ay kaga qoran tahay Allah magac weyn oo culays badan weeye masha Allah
xidigtu ay saaran tahay bisha aan ka wada xidigtu aan ka wada waxaan ognahay waxaa la tiri xidigtu waa muslimiinta islaamka lagu yaqaano laakiin xaqiiqatan diiniyan marka la fiirsho waxaan jeclaan lahaa meesha inta kaga taalo inaad noo sheegtid maadaama aad diin ka hadlaysid islaam waa su'aal weeye marka si aanan waqtiga u qaadan anigu in badan jawaab bishan aad keenteen half moonka lagu yidhahdo afka qalaad xagee diinta kaga taalo naga soo gashay فتاح حافظ عنده سوري ما انت فتاح كوير حافظ فتاح كذا حافظ هذا وما سنتهي marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan laba arrimood ba aan isdaba dhigo ugu horeyn waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago calanka annaga aan keenay haddaan arko tawakkal anigiisu miisanahay Soomaaliya inay ku jiraan dad fara badan oo annaga naga aqli badan naga cilmi badan naga waaya aragsan maalinta ay timaado in calanka la bedelana aayaha calanka inuu noqdo mid laga wada tashto ee uusan noqonaynin in tala ku nool kaliya loo daayo annaga ujeedadeenu waxay tahay calanka in la bedelo taas marka micnaheedu waxa weeyaan calankan aan wadno ma aha midka aarna Soomaali inaan ku dalqamino ama aan gelino haddii nala qaato is fine haddii mid kale Soomaali ay keensatana that is exactly waxa aan u ololo kaliya keenna in la qaadano ololuhu maaha laakiin waxaan dad waaweyn hadda la timaadid problem hadda aragtid solution kiina raasid way taas waa mid astaanta xidigta aan idhi waxay u taagan tahay waa astaan islaam diinta islaamka waxaan kugu raacsanahay meel ay ka qoran tahay inaysan jirin bil in la isticmaalo kuma qorno waxa kaloo runtaa ah in asaaskii ama markii ugu horeysay ay bilaabeen Cusmaaniyiinta inay bilaabeen ayadana waa xaqiiq runta waa kugu raacsanahay hase yeeshee marka dad mutacallimiina waxaan rabnaa bulshada in la hogaamiyo waxaan rabnaa bulshada in lagu hogaamiyo nidaam aan keenaynin friction ama isku dhac ama burburin qarankii ama in nidaamka dhammaan laga hor yimaado waxaan samaynay symbols waxa u furan dood sidaad hadda adigu la timid oo kaleeto dad badan oo Soomaaliya nala soo xiriiro yar war xidigtu haddaad islaamka dhigaysaan dayaxu intuu islaamka galaa oo run ma galo ma aha dayaxu islaam diinta islaamka meel ay uga taal male laakiin ujeedadu waxay tahay calankan iyo astaantan annaga haddaan Soomaalina ma aanan samaysan hal la bedelo wixii lagu bedeli lahaa annaga kana nabi Soomaalina waa u taala waa ka kaas ku sii soconaynaa kaas aad keenteen baan ku sii soconaynaa bisha iyo magaca Allah waxa kale oo weheliya 7 xidigood oo isgarab yaala meeshii ya shan daan ku saxay shan way shan xidigood ma amsa 7 shan waa gartay maxay shanta u taagan shanta Soomaaliya waxaan ka fakarnay annaga waxaan rabnaa ama tala ku nool qorshaheeda ku jira ama aan jecelnahay in aan one day aragno greater Somalia waddanka Soomaaliya oo dhan oo midoobay waxaan noo taala qaacido waxaan noo taala nidaam aan rabno halkaas inaan ku gaarno haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo muqaddas waxaan noo amarka in aanan ka teginin astaan muujinaysa maadaama Soomaalida markii hore Talyaanigu ka dhaadhiciyay xidigtan shanta geesli waxay u taagan tahay shanta Soomaaliya xidigtiina ay tahay xidig asaga uu leeyahay calaamadiisa waddankiisa ugu taalo asaga calaamadiisa haddaan meesha ka bixino Soomaalidina ay aaminsan tahay shantii Soomaaliya inuu taagan tahay waxaan ku qasbanahay aan rabnaa inaan ilaalino Soomaalinimadii aan rabnaa inaan ilaalino isku dhaganaashii iyo xiriirkii taariikheed iyo diimeeda Soomaalida ka dhaxeeyay sheegashadeediina aanan ka teginin waayo annaga waxaan aaminsanahay shanta Soomaaliya inay mid tahay ma kala duwanin ma aaminsan wax la dhaho federalism ma aaminsan calaamo kala duwan waxaan aaminsanahay Soomaaliya meel kasta oo ay joogto inay isku midab tahay isku diin tahay isku luqad tahay isku dad tahay hal inay tahay sidaa daraadeed shan xidigood waxaan meesha ugu qornay inaysan lumin taariikhda shanta Soomaaliya oo wadamo badani ay rabaan inay tirtiraan waa gartay arrinta ku saabsan shanta Soomaaliya waxaad aaminsan tahay inay mid yihiin shanta Soomaaliya markaan ku leeyahay mid ay yihiin macnaheedu waxa weeyaan caalamka waxa la yiraahdo waxa dadka lagu kala soocaa ethnicity oo ah dhalasho iyo macnaha meesha ka soo jeedaan waxa lagu kala soocaa luqad waxa lagu kala soocaa diin waxa lagu kala soocaa midab iyo isku ekaansho la'aan annaga intaas oo dhan iskaga mid aanahay macnaha aan ka wada Soomaalidu waa mid taas way macnaheedu marka siyaasad ahaan ka doodi siyaasad ahaan annaga taas waa ku sheegay businesska siyaasadda tala ku nool waxa weeyaan hadda waqtigan xaadirka waxay ku jirtaa change of macnaha structure-ka waddanku ku fadhiyo siyaasadda noocaasa hadda kuma jirna anagu mana galno waa gartay su'aal kale oo aan ku daro meel yar Soomaali Kenya meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin Soomaali Ethiopia meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin waxna waa muujin Soomaalinimadii iyo mustaqbal in laga hadlo waxna waa waxa hadda waaqiciga jira waxa waaqiciga jira tii Soomaaliya iyo Somaliland aba hadda wax weeyaan xaaladooda xun tahay dreamkaas iriyadaasi aniga ilmahayga iyo kuwii sii dhalanay dabcan u taala anagu hadda saasan taaganahay xogaa yar meesha mugdi yar baa ku jirana iftiimaan doonay garaalo ma marka waxaad aaminsan tahay Somaliland iyo Soomaaliya inay mid yihiin oo isku soo noqdaan oo sidii hore la noqday mise waxaad aaminsan tahay sida hadda la kala hado no annaga waxaan nahay dad u ololeeya diinta islaamka waxaan aaminsanahay islaamnimadana qaacidada islaamku waxay sheegaysaa itixaadka ama isu tagu inuu yahay awood
kala taguna inuu yahay daciifnimo iyo tafarruq caalamka maanta aan ku jirno dowladihii kala dhaqanka duwanaa kala diinta duwanaa kana luqada duwanaa ayaa isku imaanaya si ay u samaystaan ama u helaan awood waxaan aaminsannahay ama aan jecelnahay in soomaaliya ay dhammaan midowda kulligeed somaliland iyo soomaaliya inay midoobaan ayaan jecelnahay saasaan aaminsannahay laakiin siyaasad ahaan qaabkay ku midoobi lahaayeen hadda marno annagu businesska haysanaan galno mana noo degsana balse waxaan jecelnahay waxaan aaminsannahay waxaan allah ka baryaynaa inay midoobaan oo aysan kala tegin si awoodda soomaaliya ay kor ugu sii socoto waa gartay waxaan ku weydiinaya su-aashaas waxay tahay mar waxaan leedahay anagu siyaasad shuqul kuma lihin haddana waxa weeye shaarkii siyaasadda qabtaa waa dhex boodaysaa markaas waxaan ku weydiinaya marka that's why I want to put you on the spot anyway we moving on no problem xidigahan maxaa tiri marka u taagan yihiin shanta soomaaliya u taagan baa tiri macnaha mar kale markaan ku celiyo simbolka aan u soo qaadanay saan hore kugu sheegay ma aha wax oo macnaha intii hadda aan samayna calankan waxaan waxay u taagan yihiin shanta soomaaliya yes marka yaa sameeyey calankan hadda idinku aragtaan in soomaaliya calan noqdo haddii la yidhahdo yaa sameeyey waxaa samaysa kooxda tala ku nool oo adigu gudoomiyaha u tahay yes wax fikrada ma ku lahayd adigu shakhsi ahaan ilaa adaa nagala joogo inta kale waa dhunteen meesha ku jira lama yaqaan adigu fikrad ma ku lahayd waxa lagu darayo naqshada qof walba oo ku jira central committee ama guddiga dhexe ama guddiga fulinta ee tala ku nool fikirkiisa waa la dhegaystay waana la qadariyey sufyaan fikir ma ku lahaa naqshada calanka taas oo ku weydiiyey dad kale kuma weydiin lama yaqaaneen qof kasta oo ku jira guddiga dhexe ee tala ku nool fikirkiisa waa la dhegaystay waana la qadariyey waxaa lagu soo saaray si wada jir ah qof gooni u leh ma jiro qof fikirkiisa gooni loo qadariya ma jiro waa group decision waa gartay it sounds a bit like secret society inaad tihiin group qarsoon oo secret oo I don't get it anyway waxaan rabay inaan su-aasha waxaan ku weydiinaya waxay ahayd xidigtii baa ku jirta oo 5 xidigood baa ku jira yes waxaan mooday xidigtu inay tahay diin shaydaan oo qalaad oo naloo keenay xidigtii oo sideedii ah oo 5tii geesood leh laakiin 5 xabba laga dhigaa ka dhigtay marka ma 5 shaydaan oo hor laad noo keentay adigu waxaan u malaynayaa calanka aad haysato inuu yahay midkii ugu horreeyey ee aan display ku samayno hadda midka cusubi wuxuu yahay xidigaha waxaan usoo qaadanay hexagram xidig walbaahiba waxay leedahay 10 gees waddan kaloo caalamka isticmaala ma jirto group isticmaalana ma jiro so calanka aad haysato maaha kii updatedkii maaha updated version maaha fine laakiin waxaad at some point inta isku tagteen aqoon-yahaniintiinu jaamacadaha waaweyn ka soo baxay intaad fariisateen oo adiga keliya la yaqaan inta kale sumad ma lahan obviously intaad fariisateen baad waxaad keenteen calan xidigu ku sawiran tahay ama 5 xidigood aadan ama 20 xidigood aadan waxaadna igu tiri yukaan cami andhamay waxaadna igu tiri xidigtaanu 4 diimood oo qalaad ayaa iska leh sidaas awgeed ma rabno xidigtiina waa kugu dhegan tahay markaas ma khaldanaydeen mise waa saxsanaydeen hore okay so waxaad weydiinaysaa wax aan hore u soo samaynay oo soo saxnay waxaad igu xugminaysaa wixii aan samaynay 7 bilood ka hor 8 bilood ka hor saas dartaan aad igu xugmisay maya waxaan rabaa inaan ogaado markaa xidigtan qorayseen oo aad sawirayseen 5 xidigood obviously mushkiladuba xidigtay ka socotay xidigtii baad keenteen idinkoo aqoon-yahaniintii ah oo buwaagtii maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo isbaanishka xambaarsan baad timaadeen waa fariisateen hal xidig baad ka cabanayseen oo 5 gees leh waxaad keenteen 5 xidigood oo mid walba 5 gees ay leedahay absolutely marka aan kaaga jawaabo marka waa maasantahay annaga waxaan nahay dad soo bartay sidaan hore kugu sheegaba wax la dhaho political philosophy and political theory political philosophy macnaheeda waxa weeyaan marka aad rabto wax inaad soo bandhigto waxaa la isticmaalaa ama laga sameeyaa harvesting wax la dhaho waxaa fikirka iyo opinionka laga qaataa shacabka aad rabto inaad hogaamiso waxaa la fiiriyaa waxa la dhaho waxa la dhaho survey fikirka xidigaha markii ugu horreysay samaynay waxaan ugu talagalnay inuu noqdo phase 1 waayo marka aan rabno shacabka insaanka ah ee Soomaaliyeed ee intooda badan ay yihiin dadaan waxba akhrin waxna qorin marka aad u soo bandhigto wax drastic ah oo ka bedelan wixii ay yaqaaneen waxaa imaanaya in ay kugu timaado caqabado fara badan oo aadan qaadi karin waxaan ugu talagalnay inaan samayno phases wax la dhaho phase 1 phase 2 phase 3 and so on xataa marka aan dooda soo marayno haddaad fiirsato doodaha aan banaanka keenayno waxay leeyihiin gradual shift oo ah macnaha in kan la keeno ayaan la wado lagu dara kan ayaan la wado lagu dara kan si dadka macnaha loogu sameeyo education waxaan nahay macallimiin waxaan dad wax bara dadka waxaan ugu talagalnay dadku wax bartaan soo saad aragta calanka koow waxaan samaynay xidigihii caadiga ah oo Soomaalidu ay taqaanay oo 5 ah iyo mid dhexda ku jira xidigtii shaydaanka yes absolutely midii shaydaanka waxaan ku qorana meesha ujeedadan ugu qorana waxay ahayd in aanan samaynin drastic change oo ah aad ogtahay qofka bini aadamka wax cusub hadaa keentid waxa laga yaabaa markiiba inuu kula dagaalamo waxa laga yaabaa inaanan helin chance-kii xataa lagu dhageysan lahaa laakiin waxaan helnay maadaama aan xidigay wadno waxaan helnay wixii wax ka duwan doodeena markaas haddaad dhageysan lahayd waxay ahayd hal xidig 5 xidigooda ka badan waddan baan xidig siin
waa la qaatay dhegeysan ku dhameeyay ninka la yiraahdo xaafido markii taasna la ka qaatay waxaan qornay allah oo u qoran digital ma xidigaha la joogno xoogaa ya xidigaha rabaa inaan la joogno xoogaa shanta xidigaha la joogina may waxaan ka dhan rabaa inaan ku sharxo xidigihii marka time markii la gaaro ya shay saga ka dhaxyaa midba mar aan qaadno allah iyo xidigaha marka la jawaabaya so waxay ahaayeen gradual education waxbarid tartiiba oo raba shacabka Soomaaliyeed kow in waxay ay yaqaaneen looga bilaabo calankii la bedelayaa wax yar baa laga bedel waxaa timid marka in la yiraahdo bishan ku soo darna hadda waxaan ku raacay bishu inaysan ahayn calaamad islaam annaga waa ognahay bishu inaysan calaamad islaam laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan bishu inay tahay calaamad islaam dadkooda inta badan meesha ka timid ma yaqaanaan Uthmaaniinta inay sameeyeen yaqaan adigu research samaysay you did your homework marka bini aadamka marka tabtid inaad wax gelisid waxa loo gariyaa si gradual hadda tiraadid hal mar aan wixii dhamaa gelinaya ma awood uma lihidina gelis anaguna waxaan dad soo bartay wax la political philosophy and political strategy so that is qaacidada aan ku socono waana maasan okay fine you see mushkilada meeshan ka jirto waxay tahay waxa dadka rabteen inay ka talaashaan baa tiraadeen daawo u qaato waa idin badanaynayo ko waa ka soo gudubnay waa ka soo gudubnay waa ku dhageystay fadlan hadda waa ka soo gudubnay inaad tiraahdo daawo inta hadda waxa la taagan yahay ka hadal waaqican caadiga waana ku sheegay waxaan ka wadi adaa ka gudbay aniga baaburkayga hal geeri buu ku socdaa tartiib buu socdaa 90 mile an hour baa ku socotaa because waxa ku saaran maxaa la lahaa engine VA the challenge relax okay I'm relaxed thank you I like that waxaa jira waxaad tiraahdeen waxaan waa diimo qalaad 10 jeer baad ku celisay xidigtan waxaa iskale 4 diimood oo kala duwan xidigta inaad dadkii ka talaashaan oo aad kala dagaalantaan aqoon-yahaniintii maadaama aad tiin wasa hadalka u dhigtay and I don't doubt for 1 minute in aqoon leeda Allah ku zaaidiyay waxaan ku soo diray jaamacadaha meeshan galay xataa waxaan ku soo diray numberkii ardanimada wali ma soo cadin research ma sameyn funny enough ina sidaas tiri jaamacadaadii baan waxay because waa ogaa interview maanta dhacay shalay kaliya haystay email baa u diray weekend ciiduma shaqeynaynin waxaan ku yiri waxaan daba socdaa magacan qofka iska leh iyo numberkan ma ii sheegi kartaan waxay u yiraahdeen is confidential waxaan ku yiri can you at least ma ii sheegi kartaan inuu ninkan jaamacadan dhigtay waxay igu tiri we cannot confirm can you deny baan ku yiri no way igu tiri telefonkana waa igu dhigtay that is conversation dhex maray so I did done some homework taas macnaheedu ma aha jaamacad inaadan dhiganin inaad dhigatay ma ahan waxay ka dhigan tahay qofka ila hadlay siduu ila hadlay waxa laga yaabaa bad mood inay ku jirtay good mood inay ku jirtay policy-goodu inuu yahay all that I respect أنا كوسينا يلي واي معنا ملكلود أنا وأنا هنا research كاساس ميسد واحد يردد بدنا وسام ديجو جوجو يقانا أنا واحد كوسي كرا authorization هنا إن لو كوسي records كا حديد أدرتنا واحد records كوجيران page كيجا وكبارك تا actually أنا واحد كوسي ترى إن أتريد أقويهم باشيء كتير إن أتريد كودي ده وأنا at least واحد بدي respect me هنا وياه وحيرب بدنا كلام كوران كلا لكن واحد كوسو دلاشو صوب برا إيران كائن كرا واحد ويودل النمو وي laakiin waxaan kuu sheegay aniga iyo jaamacadda waxaan soo dhex maray recordkaaga way diidan inay ii sheegaan and that is data protection policy-gooda you know all the red tapes whatever it may be forget xidigihii bay iga dhigan tahay xidigaha kama maarmeen marka aqoon-yahankii maraykanka iyo canada iyo kasoo bartay wax meesha la yidhaahda Spain baa dalkii dib ugu soo noqday dabadeedna hal xidig buu nagala dagaalamayo 4 diimood ay leeyihiin wuxuu noo keenay 5 xidigood marka kugu lix baad noo keenay xabad gudaha ku jirta oo la dhaho Star of Unity shan banaanka ku jira oo taagan the 5 Somalis waa gartay marka mushkiladu halkan waxay tahay meeshii aad xidigta kala dagaalami lahaydeen waxaad noo keenteen xidiga kuwii ka badan marka diimihii oo iska batay baan u qaadanay dadku siyaabo kale u fasiri karaan waxaadna hadalkaaga ku jiray inaad tiri political philosophy aan bartay waxaan doonaynay dadka inaanan drastic change ku samaynin tartiib aan u bedelno walwalka lagaa qabo waxa ay tahay inaad ujeedo kale iyo diimo kale iyo dhaqamo kale iyo afkaar ummad kale aad fulinaysid ayay u tahay dadkan Soomaaliyeedna aad doonaysid waxaad kaga kaluumaysatid oo kusoo dhawaysid maxaad arrintaa ka oranaysaa thank you very much runtii waxaad moodaa mahmahdaa jirta luqadda Isbaanishka oo tiraahdaa no hay más ciego aquí no quiero ver y no hay más sordo aquí no quiero oír qofna kama dhagalaa ama dhagoolo kama qofka rabin wax maqlo qofna kama indhalaa qofka rabin wax macnaha taasan ka wada waxay tahay su'aasha aad weydiisay waxaan ka jawaabaa 100 mar haddana waa kugu celinaya annaga waxaan leenahay philosophy iyo qaacido waxa noo qoran waa wax banaanka yaala qofkii nagu raacaya iyo qofkii nagu diidaya dadkii Soomaaliyeed waa nagu raacay waa na soo dhaweeyay haddii aan nahay dad khaa'imiin ah oo la soo dirsaday
ma dhahneen dastuurka islaamka rabnaa kitaabka jaamaca lagu xukumo qof la soo dirsaday kama suurta gasho in uu yiraahdo diinta islaamka ayaan rabaa qaacidada islaamka ama kitaabka jaamaca ahana lagu maamulo waxay beeninaysaa taasi qof kasta oo aamina ama ku yiraahda asagoo caadifad kale ay hayso yiraahda nimankan banaanka laga soo dirsaday waa sidaas nin marka arrintaas suurtagal ma waxaan rabnaa annaga waxaan aaminsannahay waxaan u taagannahay waxaan u ololeynaynaa kitaabka jaamaca inuu noqdo dastuurka soomaaliya waa gartay dabcan su-aashaydii waxay ahayd hal xidig baa nagala dagaalamayseen 6 baad noo keentay xidigtuna shaydaan baa caabudo oo diimo qalaad baa iska leh 6 xidigoodna iga gudoomo aqoonyahankii Soomaaliyeed baan ahay adeer arrintaas waa la liqi kari laayahay bal laga deji ma haystaba hadde waxaan ku iri marka ma ku mama waxaan ku iri qofku hadduusan rabin inuu wax maqlo qofna kama dhagala waxaan ku iri waxaan kula wadaagay macnaha markaad hadda ila hadlayso anigu waxaan ku qaatay inaad tahay nin oo at least to a certain degree educated macnaha wax fahmaya strategy-ga aan isticmaalayno dad wax bartaan nahay iskama soconno hawtal hamagmanin habban kuma jirno strategy-ga aan isticmaalayno waxa weeyaan dadka inaan wax barno maantay marka aan rabo in aan wax ku baro waa inaan wixii meel ku dhow ku geeyo kadib kaasii wado tartiib inaan wax ku baro laakiin mar labaad madeli karo maantay xidigahaas aan leenahay waa calaamad shaydaan calankeena kuma yaalaan calanka talo ku nool kuma yaalaan waxaa ku yaala wixii wax ka duwan meaning waxay taas ku tusaysaa inaan ka guurnay markaan ka guurnay ayaanan bilowna xidigta inaan ka hadalno haddaad waraysayaalkaygii dhegaysatid iyo timeline-ka aan isticmaalnay waxaan ahayd phases phase 1 astaanta phase 2 calanka phase 3 starska phase 4 calanka heestiisa ilaa phase 5 6 7 waa soo socdaa kuwa kaleeto fara badan marka hadda waqtigan xaadirka oo aad maanta i xukumayso oo aad leedahay diimo kale noo keenteen xidigta noo baseen ma haysano xidigtii ma isticmaalana xidigtii calanka aan haysanana ama aan rabna inaan Soomaali istinana kuma taalo hadda soo dhawo goorma ayaad bedesheen calanka xidigihii 6 ahayd ku qorateen goorma bedesheen timeline-kay ku taallaa facebookgayga pageka I'm asking you give a rough idea I'm not able hadda macnaha exactly ma ku sheegi karo datekii because out of my date waa khalad weeye because ma ku sheegi karaan laakiin waxay noqonaysaa hadda pageka aad tagtid tala ku nool ama pagekayga Sufyaan Sheekh Axmed aad tagtid waa ku taallaa markii la bedelay marka sanad ka hor miyay mise 6 bilood mise 2 sano ka hor campaign-ka waxaan ku jirnaa 2019 ka bilow so waxaan dhihi karnaa relatively waqti dhow bay ahayd waxaan leenahay waxa la dhaho 4-month strategy afartii biloodba subject cusub in laga hadlo hadda maxaa soo wadaan subjectkii kale muxuu cusub subject cusub aan soo wadno waxa weeyaan sida aad meesha aad joogto laga yiraahdo waxa waaye iska sug waa soo imaanaya okay Sufyaan waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo saacad iyo 40 daqiiqo hadlaynay waraysigan asagoo dhammaystiran lama soo dayn karo hal mar uu badan yahay dadkuna maaragtay wax inta waqti uma hayaan waxaan ka balan qaadayaa inaan anigu iikaadaan ku dhameystay inaan anigu shakhsiyan ama qof aniga ila shaqeeya uusan editing ku samaynin codkaaga la jarinin waxaa tiri aan la hareer marinin sidaan u tiri loo soo daayo laakiin waxaan rabaa inaan ogaatin markaan soo daayo waxaan dad fara badan oo Soomaali oo waxaa jira Facebook iyo YouTube leh wixii way soo jarjarayaan intay rabaan bay soo qaadanayaan waxaan garan karaa inaad ila fahmaysid inaanan ka cudur daaranayn inaan dadka mas'uul ka ahayn waxna ka qaban karnin waxaan mas'uul ka ahay waxaan soo geliyo Cabdixafiin Maxamuud Jaamac YouTube-kiisa waxaan soo geliyaa mas'uul ka ahay waxa halka ku aragtid ana isto qabsanaysa haday wax dhibaato ka jiraan hadii ay sidii aan ku ballanay ay tahayna dooday Soomaaliyeed oo aad marti waa wahayd weeye aan geelna ku qalinin waxa weeye waa soo dhaweynaa David waa maasan tahay aniga waxaan qaatay precaution kan qaatay camera hadda i xiran waxa tiri oo dhan i duubaysa adiga wixii aad tiri ama aan ku wada hadalnaan mas'uuliga tahay wixii qof intuu jabiyay ama dhinac kale ka bixiyay of course adiga mas'uul ka meeytaas kuma haysto laakiin adiga exactly hadii aad bedesho hadalkii aan ku wada hadalnay oo sida caalamiga oo jirto wariyuhu intuu wuxuu rabo la baxo meesha leedahay waa qaldan tahay annaan ku leeyahay waa sax isku aadisid taas adaan ku haysta maya waxa taas kaga buskooraysa waxaan ku eray waxa channelka Cabdixafiin Maxamuud Jaamac soo gala ana ka mas'uul markaan sii daayo uu baxo cid kale waxay qaadatay anu mas'uul kama ihi laakiin adiga taas ma ku weydiinayo adiga waxa kaliya oo mas'uul ka tahay waxaan kaloon ka rabaa waraysigan oo macnaha aniga waxa ii duuban face-kaaga bis hadda ii duuban camera ii xiran laakiin kayga ma ii duuban in haze waa so waxaan ka rabaa in aad ii samayso inaad ii soo dirto exactly interview complete ama aad ii sheegto meelaan ka heli karo hadda live ma ku jirno waxaan samaynayaa xogaa ima fahminin waxaan ku yiri markaan channelkayga soo geliyo asagoo complete aan soo geliya isku dayaya hadduu laakiin qaadi waayo uu bato stages baan u soo goynaa dadkana waa signpost garaynaa part 1 part 2 so
overall waxa weeye waxaan ku wada hadalnay oo hadda hadalkeena sheekadan ay ku jirto ayaa ka mid ah laakiin iyo waa ay khiyaantay waxay ahayd inay ii sheegtay inaad duubayso imaada sheegin maxay khiyaantay no that is a precaution aniga waxa waaye waxaan ku ogaa inaad tahay nin calanka taageersan waxaan diidanahay hadhow tala ku nool ideas xalan ka doodnay waa fiirinay waxa aad u taagan tahay iyo fikirkaaga adigaan baaritaan kugu samaynay waxaa noo soo baxday inay macquul tahay inay caadifa jiri karto go'aankana waa qaatay waraysiga inaan ku siiyo therefore waxaan u samaynay security reasons inaadan hadhow wixii aan idhi waxaan ahayn inaadan soo bandhigin waana maasanta mar haddaadan intaas wax dhiba kuguma hayso laakiin xaq bay u lahaa inaad ii sheegto soomaha ilaa anigu kuma khiyaanan baakan waa duubay waaye no waxa waaye adiga waxaad duubanaysaa imagekaygii anna kaagan duumanaya it's a win-win situation don't worry about it ma gartay anigu waxaan raba iyo waxaan kaa waraysanaya waa kuu sheegay laakiin adigu iima sheegin in ay duubanaysid aniga dhegayso waxa kaliyo bannaanka imaanaysaa only haddii uu yimaado waxa la dhaho inaad editing ku samaysid xataa editingka ma aha editing inaad ku samaysid in a manner that actually makes bias your side haddaan aragno taas markaasaan bannaanka soo dhigaynaa laakiin haddii si caadi aa u samaysid we don't have in fact marka ugu horreysa soo gelistaan delete garaynaa haddii ay noqoto taas anigu hadda waxaan recording way duuban yihiin anigu waxaan tirtirayo ama luminayo ama aan goynayo ma jirto laakiin waxaan ku yidhi waxaan xaq kuugu lahaa saa adiguba xaq iigu lahayd kuuguna ixtiraamin aan xaasaskaaga ka hadlin inaad tirahdo cabdixafiidow anna waa ku duubayaa la soco wax ii qarsoonaan ku oran lahaa hadda ka duwana ma jirto waxaan ku yidhi ma ku oran lahaa laakiin xaqaygii baa qaadatay laakiin waxaan rabaa inaan ku ixtiraamo cafis baa ka tahay may ka socon ku yidhi waxaas dhib malaada waxaan jeclaa inaan intaa kusoo gabagabeeyo waa kuu mahad celinayaa oday soomaaliyeed baa tahay jordan waxay ku bilaabatay si heated ah laakiin markii ruuxaantii ay kaa degtay waa is helnay boqolkiiba boqol kuu mahad celinayaa waxaan jeclaa kale mahad celiyo adam siina last word waxaan jeclaa kale mahad celiyo techniciankeena weyn ama engineerkeena cabdifatax cali sharuuc asagoo halkaan ila jooga waxaan si hagar la'aan ugu mahad celinayaa wariye cabdulqaadir cumar cabdulle oo asagu gundhig u ahaa barnaamijkan inuu baxo allah karaameeyo sidoo kale waxaan mahad celinayaa farsamayaqaankeena weyn baashe allah ku karaameeyo ugu dambeyntiina waxaan mahad celinayaa walaalkay sufyaan iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga ee barnaamijkan daawanaysa waxaan ka codsanayaa barnaamijyadan inaynaan ninkaan aflagaadaynin laakiin hadday aad wax ka khaldan aad u nasteexaysid aan la iscaayin laakiin soo dhawow sufyaan gabagabe marka ugu horeysa cabdixaafid waa mahadsan tahay ka doonay programka inkastoo macnaha sidii aniga aan malaynay uusan u dhicin laakiin hadda laftirkeeda wax dhiba kuma qabo doosay u dhacday waxaan rajaynayaa in adiga iyo intana dhegeysan doontaba ay u tahay informative interview oo ay ka faa'iidaystaan waxaan annagu u taagannahay haddaan nahay reer ku nool inaan u ololayno bedelidda calanka astaanta tirtiridda haybta koorka dib u sixidda taariikhda soomaaliya waxaan marti u ahaa maanta cabdixaafid aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaa kulanti dambe thank you very much aad baa mahadsan tahay daawadeer intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaan jeclahay dadka qaarkood mararka qaarkood dadka amnigooda inay khalkhal geliyaan isku daya barnaamijkaanu ma aha barnaamij aan ugu talagalnay ama ujeedadiisu ay ahayd dadka la yidhi waa la dilay abu sufyaan inuu dilay abu sufyaan beer inuu dilay anigu ma ogi inay dhinteen kama warqabo anigu eedeyn asagoo ma soo jeedinaya dadku waxay lahaayeen oo keliya idin sheegay ninkaas soomaaliyeed wax anigu eeda oo aan u hayo ama aan ku ogahay ama caddayn ah inuu dembi galay haba yaraatee ma jirto I want you to be witness marka saas oo la socda haliis nabadgeliyo guul iyo gobonnimo idin rajaynaynaa saaxiib salaanta calanka saartee waxaan kusoo gabagabeynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ninkaan waa naga diidan yahay astaanta calanka soomaaliyeed dabadeedna halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna thank you very much de salaanta saar salaanta adaan noo saaraya adiga noo saar salaanta thank you very much thank you my brother